الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. وانصور شيخني تمتع وحل إلى iyo qiraanka riwaayaadka kitaabka ka mid ah waxay tiri wal iqraan bay qoraysaa. wal iqraanka saxma min haythu al-lugha wa khata' ilayhin al-qiran way macna wal ifrad bil hajj ifrad kana sayna wa samarna wa fasakh al hajj liman lam yakun ma'ahu hadiyun kulli wa sooqixnay mutamatti'a ama tamattu'a waxay leeyihiin jumhuur ulama waxay qabaan shuruud markii la helo baa tamattu'a ahkaamtiisu laazimaysa. midda koowaad waxa weeyaan xajka iyo umrada oo hal socdaal lagu jumciyaan weeyaan baan leeyahay. waa inay hal socdaal wada noqdaan, waa inay hal sanad wada noqdaan, waa inay bilaha xajka wada dhacaan, waa in cumrada la hormariyo, waa in ruuxa sameynayana uu sarree Makka ahayn. inta marka laga hela tamattuc macnaha iimaanaya inda jumhuur ulama. macnaha duu sarree Makka yahay oo inoo imaan doonta ahkaamta tamattuc ma qaadanayo. bayb hadii uu cumrada dambeysiyana oo xajka hormariyana tamattuc lama yiraahdo, ifraad baa la yiraahdaa. macnaha xaj buu xarmanaya, xaj ku dhamaysanaya, cumradu dambaysiinaya, tamattuc lama yiraahdo iyadana. sidoo kale hadduu mid walba socdaal gooniya u sameeyo oo intuu soo cumraysto gurigiisa ku soo laabto haddana xajka socdaal kale u galana ayadana tamattuc lama yiraahdo. hadday 2 sano kala dhacaana tamattuc lama yiraahdo. bilaha xajka haddayna cumradu dhicinna tamattuc lama yiraahdo. yani shuruudaas tamattuc macnaha uu leeyahay macnaha. ayib qaali baan ku xidhi xadathana Uthman. marka xagga camalka la qabanayo mutamatti'a waan soo sheegnay. marka hore waxaan idhi cumro kaliya iyo xarmanaya. meesha markuu tagana acmaasha cumrada kaliya gudanaya. acmaasha cumrada waxa weeyaan waa dawaafka, sacyiga bayna safa wal marwa iyo xiirashada ama gaabsiga. intaasuu sameynaya uu xalaaloobaya. maalinka 8aadna xaj buu xidhanayaa. minuu tagayaa habeenkaas, carafuu tagayaa, musdalifuu soo marayaa. maalinka 10aad marka la joogo oo ramyul jamra uu sameeyo haddana waxaa laga rabaa inuu la yimaado dawaaful ifaadahaas oo ka wada siman yihiin oo dawaaful xajna waa la yidhaahdaa. sidoo kaleeto wuxuu la imaanayaa asacyu bayna asafa walmarwa iyo mar labaad la imaanaya oo sacyigaa dambe xajka kale. kii horena yaa iska lahaa, cumradii baa iska lahay. kaasi waa mutamattica. waxaa ku yimid qaarinka iyo mufridka. qaarinka iyo mufridku axkaamta isku mid bay ka yihiin markii laga reebo qaarinka oo marka hore uu soo xarmanayo xajkii iyo cumradii wada xarmanaya. mufridkuna xaj keliya xarmanaya sooma. iyo qaarinka oo hadyi laga rabo iyo muftoon laga rabin. intaa markii laga reebo acmaashooda kala dhaw isku mid. mesela markay beedka tagaan mid walba waxa laga rabaa inuu la yimaado dawaaful quduum. yani kacbadu dawaafaya, laakiin dawaafkaasi dawaaful quduum baa la yiraahdaa. kii mutamattica ahaa laftiisu markuu kacbada tagay dawaaf buu ku bilaabay sooma, laakiin dawaafkiisu muxuu ahaa? dawaaful quduum ma aha, isagu ma laha. dawaafkiisa waxa la yiraahdaa dawaaful umra la yiraahdaa. saasmaana dawaafkiisaasi kii cumradu noqonaya. laakiin dawaaful quduum waxa iska leh qaarinka iyo mufridka. labadaas dawaaful quduum iska leh. dawaaful quduum markay sameeyaan waxa u bannaan inay ka dambaysiiyaan as-sa'yu bayna as-safa wal marwa. waxa u bannaan oo kale inay dawaafka kaliya ku gaabsadaan. hadday sacyiga ka dambaysiiyaan oo dawaafka quduumka sacyiga safiya marwo u dhaxeeya ay ka dambaysiiyaan maalinka 10aad dawaafka la yiraahdo dawaaful xajka
ama dawaaful ifaadaha sacyi ka dambaysiin maayaan maxaa yeelay sacyigii hore markay yimaadeen ay sameeyeen baa xajkii iyo cumradiiba guday haddiise aynan dawaafan quduumka markay sameeyaan ay sacyiga ay ka gaabsadaan oy dawaaful quduum keliya ku gaabsadaan maalinka tobnaad dawaaful ifaadaha markay sameeyaan gadaashiisa waxaa laga rabaa inay la yimaadaan assacyu bayna asafa waalmarwa marka sacyigaasaa xajkiina gudaya cumradiina gudaya saas macnaa waa qaarinka ama mufridka hadee isagu xaj keliyuubu watayba macnaa marka sacyigaa way hormarin karaan wayna dibdhigi karaan oo maalinta tobnaad bay u dibdhigi karaan labadaba way heli karaan macnaa sidaas wey marka acmaashoodu fawaariqdaasaa udhaxaysa ayib qaala imaamku wuxuu uhi xadaanaa cusmaan ibn abi shayba qaala wuxuu uhi xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid can mansuur ibn lmuctamir can ibraahim ibn yaziidin annakhaci can ilaswad ibn yaziid can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kharajnaa waan baxnay maca nabiy nebiga la jeerankiisa aan baxnay sal alay aslam laa nuraa walaa nuraa walxaal laa nuraa aan naloo malagelinaynin ilaa annahu isagu alxaju xaj inuu yahay mooyaane nusuga aan u soconno inuu xaj yahay mooye wax kale annagoon moodaynin baa nebiga la soo baxnay buu yidhi yani waa markay madiine ka soo baxayeen intaysan soo gaadhin meesha la yidhaahdo yani dalxulayfa ee nebigu uusan u caddaynin waxyaabaha u bannaan iyo qaababka u bannaanay u xajin karaan intii ka horraysayba waxay rumaysnaayeen xaj keliya uun in loo socdo maxaa yeelay sidaan u tegi doonno bilaha xajka in la cumraysto agtooda mamnuuc bayba ka ahayd min afjari ilfujuur bayba u arki jireen faajirnimota ugu daran bay u arki jireen saas daraaddeed markay madiine ka soo baxayaan lamaba ahaba cumro wax la yidhahdaa meesha ku jirta saas way macana laakiin markii dilxulayfa ay yimaadeen buu nebigu u caddeeyey sal alay wasalam ninkii cumrihii xidhanayo xidho xarmo ninkii xaj keliya xarmanayo xarmo ninkii masalan waxa maarta markaa kadib bay macnaha arrinto iyo u caddaatay saasay marka wadaan walaa nuraa xaala aan naloo malagelinaynin ilaa annahu alxaju xaj inuu yahay mooye wax kale iyadoo naloo malagelinayn oo malaha naga isa wax kale ku jirin falammaa qadimnaa markaanu soo gallay oo aanu maka nimid wey yaan tadawafnaa waxaanu dawaafnay bilbeyti kacbadaan dawaafnay iyadu miyay ku jirtaa maya waa saxaabadii kale un bay ka wadaan ilan iyadu waa tii dhiig ku dhacay ayb fa amara nabiyu nebigu wuxuu amray sal alay waslam man lam yakun ciddii aan ahayn saaqa mid soo kaxeeyey alhadya ciddii xoola soo kaxaysay ciddaan xoola soo kaxaynin ciddaan xoola soo kaxaynin wuxuu amray an yaxilla inuu xalaaloobo oo muxuu ku xalaaloobayaa inuu camal cumro la yimaado cumrada acmaasheeda intuu guto markaa kadibna ka xalaaloobo macna ayb fa amara nabiy nebigu wuxuu amray man lam yakun ciddii aan ahayn saaqa mid soo kaxeeyey alhadya an yaxilla inuu xalaaloobo oo camal cumro uu xalaaloobo xajkiisii cumro u bedelo wey macnaa uu fasakho saas wey macnaa ayb faxalla 3 goor buu nebigu sal alay wasalam taqriiban 4 goor baa la dhihi karaa markii musdelife markii dilxulayfe ay marayeen nebigu khiyaar buu siiyey ninkii tan mari kara ninkii tamatucaya ninkii qiraanaya ninkii ifraad samaynaya markii maka ku soo dhowaadeenoo sarif ay joogaanna sidoo kale nebigu khiyaar buu haddana geli laakiin waxoogaa intii hore ka yara adagoo yacni uu jeclaysiinayo inay cumro u beddeshaan oo tamatuc sameeyaan haddana markii uu soo dhowaado duduwa magaalada qarkeeda markuu habeenkii uu bariyey habeenkaana nebigu sal alay slam maalinkaana uu la hadlayo iyadana waxoogaa wuxuu jeclaysiiyey inay beddelaan laakiin weli muusan ku adkayn markii dawaafka la tegey oo inay dawaafaan ay noqotay markaasuu amar nebigu ku siiyey sal alay wasalam oo yidhi nin alle ninkaan hadyi wadinoo dhanow waxaad u bedeshaa xajkaagii cumro u bedel buu nebigu sal alay slam marka amarka jaazimkaa markaasuu nebigu bixiyey sal alay wasalam weliba markay ka yara biyo diideen waa kii nebigu cadhooday waa ka cadhooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo wuxuu yidhi ma ilahay baad i baraysaan yeela buu yidhi waxaan idin faray nebigu sal alay slam saas way macana ayb marka waxay saxay tiri faxalla waxaa xalaaloobay man lam yakun ciddii aan ahayn saaqa mid kaxeeyey alhadya xoola dadkii soo kaxeeyey ciddaan ahayn oo dhan waa xalaaloobeen wa nisaa'uhu nebiga xaasaskiiskuna lam yasuqna mayna soo kaxaynin hadyi mayna soo kaxaynin fa axlalna markaasay xalaaloobeen markii iyada laga reebo wey macnaha oo iyada dee xalaaloobidda waxaa u diiday dhiiggii ku dhacay baa u diiday sooma inay cumraysato xalaalowdo iyada dhiiggaa u diiday ayadu marka waxay samaysay markii cumradii u suuroobi weyday waa kii nebigu yidhi sal alay wasalam xaj ku dar marka qaarinad bay noqotay sooma saasay qaarinad ku noqotay ayib qaalat caaishatu waxay tihi radi allahu canha faxidtu waan xaylay
oo falam aduf ma aanan dawaafin bilbeyti kacbada maana dawaafin anigu falamma kaanat markay ahaatay leylatu lxasbati habeenkii macnaha wey leylatu lxasba leylatu lxasba waxa weeye habeenka yacni 14 oo meesha la yidhaahdo xasba batxaa meeshaan ku soo marnay muxasab somayna soo marnay meesha habeenka la baryayo wey oo u dhaxaysa mina iyo maka waa habeenku nabigu soo mabaxay sallallahu alayhi wasallam habeenka isaga markay ahaydoo habeenkii 14 wey macna dayib falamma kaanat markay ahaatay leelatul xasbati meesha xasba la yidhaahdo macnaha habeenkeedii ayaa qaalad waxay tihi yaa rasuulallah rasuulka ilaah yarjicu nnaasu dadkuma waxay la laabanayaan bicumratin iyo waxajatin wa arjicu yani kala madax bannaan wey waarjicu miyaan la laaban ana aniguna bixajatin mahla xaj baan la laabanaya hal xaj walow yani haba isdhex galaane leanna acmaashay samaysay waa acmaashii xajka un soo maa ilan wax umro oo meesha ay keentay waxaan niye ka ahayn oo meesha soo galay male iyo hadiyiga saas maana yani waxa weeyaan sideedaba mufridka iyo saan soo sheegnay iyo qaarinku waa isku camal cumrada niyada xarmashada hore iyo hadiyiga iyo unbuu qaarinku la dheeriyaa bas laakiin camalka isku mid wey saas daraaddeed iyadu waxay isu haysataa inay macnaha xaj keliya gudatay saas maana wa arjicu anaga bixajatin miyaa la laabanaya waa kan soo marnay marka nebigu sal ly slam inuu ku yidhi sacyigaagii aad samaysay baa xajkaagii iyo cumradaadiiba kaaday saas maana laakiin way ku qanci weyday sida saxiix muslim ku sugan markaasuu nebigu sal lay wasalam si uu u qanciyo buu walaalkeeda raaciyey saas maana ayib qaala wuxuu ihi wamaa dufti maadan dhawaafin miyaa layaaliya qadimnaa makkata habeenadaan maka soo gallay maadan dhawaafin miya oo yacni habeenkii habeenadii maka la yimid macnaa markuu dhiig ku dhacayo qultu waxaan ihi laa maya qaala wuxuu ihi nebigu sal lay slam fadhabii tag marka maca akhiiki walaalkaa la jirankiisa ila tanciimi aad oo fa ahillii ka soo xarmo bicumratin cumro soo xarmo uma kadibna mawciduki makaanu ballankaagu meeshaynu ku ballamaynaaye kadaa wa kadaa meel hebliya meel heble wey intaad soo cumraysato meel heble iigu imo halkaasaan idinku sii sugaya waan soo marnay qaalat safiyatu waxay tidhi halkaa markii la joogo maa uraanii la iima malagelinaya bay tiri oo malahaygu ma aha ilaa xaabisatahum inaan ahay mid dadka celinaysa mooye reebaysa ayib wuxuu ka wadaa markaasaa iyadana dhiig ku dhacay dhiiggii caadada baa iyadana marka ku dhacay marka waxaa u laaban dawaafulwidaaci baa u laaban dawaafulwidaaci ilaan habeenka lasoo ambabaxayo baa inta masaajidkii lasoo maro kacbada lasoo dawaafulwidaaci marka dawaafulwidaaci markuu u laaban yahay buu dhiig ku dhacay markaasaa waxay tidhi ilama aha inaan dadka xabisahayoon reebahayo mooye wax kale ilama aha oo yacni dee la ii nagaanahayo oo dadku isugayaanoo sugitaankayga lagu rafaadi doono yani waxay la tahay marka dawaafulwidaaca inay gudatay inay laga maarmaan tahay oo kolley loo joogi doono macnaa saasa iska dhadhaysa qaala safiyatu waxay tidhi maa uraanii la iima malagelinayo ilaa bisatahum dadka mid reebaysa inaan ahay mooyaane qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam caqraa xalqa saas way macnaa na waxaa weye naa dhuunta lagu dhufay oo boqonta la goo saas way macnaa awamaa dufti miyaadan dhawaafin buu ku yidhi yowma naxri maalintii dhuundhabidda yowma naxri miyaadan dhawaafin saas way macnaa xalqa caqraa xalqa waxa weeye waa kelimaadka luqo walba ku jiro yacni laysku canaanto daahirkooda lagama wado habaar maaha qasadku habaar maaha laakiin waa kelimaad laysku canaanto caqraa waxa weeye boqonta la gooy xalqana waxa weye dhuunta lagu dhufay wey saas way macnaa sida soomaaliduba tiraahdo marka naa-inkaani ku dhacday wey macnaha miyaadan dawaafkii weynaaye yowmu naxri dawaafulifaadihi miyaadan samaynin buu ku yidhi saas way macnaa awamaa dhufti miyaadan dawaafin yowma naxri maalintii dhuundhowa yowma naxri waxaa la yidhahdaa maalinta tobnaad sooma yowma alxaji alakbar maalinkaa wey oo dawaafkaana waxaa laga wadaa dawaafuulxaj sideedaba dawaafuulxaj iyo dawaafuziyaara iyo dawaafulifaada kulli waa isku hal dawaaf waa isku mid maalinkaa tobnaad dawaafka dhacayo wey maana ayib qaalad waxay tihi qultu waxaani balaa iska badaa inaan dawaafino waa dawaafay nabi allow qaala wuxuu ihi laa ba'sa dhib male marka infirii buu nebigu sal alay wasalam bax yani noqoo yani waxa weeyaan soco inawadi wey macna waxaa laga wadaa mar haddaad dawaafkii weynaaye xajka aad la timid dawaafulwidaaca kuu laaban dhib ma lehe saas maana yani
haddii haweenaydu iyadoo dawaafulwidaacu u laaban yahay uu dhiigu ku dhaco way iskaga tegi kartaa. ayb bacd ahlicilmina waxa dawaafulwidaacu waa sunno, qaarna waxa leeyihin waa waajib, laakiin waxay isla ogol yihiin qolo walba haweenayda dhiigu ku dhacay in laga cafinayo. ayb qaalad waxay tihi caaishatu radi allahu canha falaqiyanii waxaa ila kulmay annabiyu sal lay waslam, nabigaa ila kulmay walxaal huwa isagu muscidun uu yahay mid sii koraya min makkata isagoo maka ka koraya, wa ana aniguna munhabitatun aan ahay mid hoobanaysa calayha maka dusheeda kusoo hoobanaysa, aw amase ana anigu muscidatun aan ahay mid soo koraysa wa huwa isaguna munhabitun uu yahay mid soo hoobanaya minhaa ay ilayhaa maka isagoo usii hoobanaya. riwaayadda macnaa waxa weeye raawiga taqriiban ku shakiyey, laakiin xaqiiqadu waxa weeye caaisha markay intay soo dhammaysatay cumradeedii yay nebiga sal alay wasalam ugu timid meeshii la odhan jiray muxasab, saan soo marnay marka yani diyaargarow yani dadku inay rataan diyaargaroobayo markaasuu sii maray kacbada sii maray nebigu sal lay slam, marka isaguna waa sii socdaa, markaas ay kulmayaan makuu sii gelayaa ayadoona markaa markay kasoo fufay saas macna. ayb laakiin alfaadan waxaa ku jira macnaa waxa weeye wahmi baa ku jira daahirkeeda macnaha. qaala imaamku wuxuu uhi xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf, xadiiska marka wuxuu ku cadyahay oo uu daliil u yahay laba arrimood. waa midda koobaadee waxa la yidhahdo ifraadka, ilan xajka noocyadiis baa laga hadlay sooma. ifraadka xagee laga qaadanaya? walaa nuraa ilaa annahu alxaju, halkaasaa laga qaadanaya. xaj unbay nala ahayd markaa in la geli doono oo xaj keliya dadku ay gudan doonaan, cumra ayna meesha ku jirin, halkaa ifraadka laga qaadanaya. waxaa kaloo laga qaadanaya fasku alxaji ila alcumra, oo iyadana xaggeen ka qaadanaynaa? nebigu sal alay wasalam saxaabada waa ka amray inay xajkoodii cumro u bedelaan oy acmaasha cumrada gutaan. labada xugun ba xadiisku waa faa'ideynaya macnaha. ayb qaala imaamku wuxu uhi xadaanaa cabdullahi ibnu yuusuf atinisi qala wuxu uhi akhbarana malik ibnu anas can abi lswad muxamed ibni cabdiraxmaan ibnu nawfal baa la yidhahda can curwata bni zubayr can caaishata radi allahu canha anaha qaalad waxay tidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lah sal lay slm rasuulka la jirankiisa caama xajati alwadaaca, sanadkii sagootiga xajkiisa. fa minaa xajkii sagootigu sanad ku dhacay mana. fa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla cid xarmatay bicumratin, wa minaa waxaa naga mid ahaa saxaabada man ahalla cid xarmatay bixajatin wa cumra, oo midda hore waxay noqonaysaa tamatuc sooma, ta labaadna waa qiraan. ayb wa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla cid xarmaday bilxaji, xaj keliya xarmaday, tanina waa ifraad. wa ahalla wuu xarmaday rasuululahi sal lay slm, rasuulku wuxuu xarmaday bilxaji, xaj buu xarmaday. halka maxaa ka muuqda inuu nebigu ahaa mufrid sooma, saasaa daahirka riwaayada ka muuqata. waxaa wariyey axaadiista laga fahmayey inuu nebigu mufrid ahaa caaisha, cabdullaahi bni cumar, cabdullaahi bni cabbaas iyo jaabir bni cabdillaah. afartoodabana haddana waxaa laga wariyey riwaayaad ku tusaya inuu nebigu qaarin ahaa. sidaas daraaddeed saxaabo kaleeto oo fara badanoon afartooda ahaynna nebiga waxay ku tilmaameen xajkiisu inuu ahaa qiran inuu ahaa. sidaas daraaddeed baa waxay leeyihiin culimmadu caaisha markay leedahay wa ahalla rasuululahi sal lay slam bilxaji, waa say iyadu fahamtay, waana faham khaldan. sida cabdullaahi bni cumarba uu yidhi nebigu rajab buu cumraystay, iyadoo wax jira aynan ahayn. marka ismuutiis caaisha ay ismuutiso fahna iyadu fahantay weeye, laakiin xaqiiqadu saa ma ahayn. saa waa la dhihi karaa. ama waxaa lagu jawaabi karaa in la yidhaahdo xaj buu nebigu xarmaday, waxaa laga wadaa caaisha waxay ka wadaa qiraankii, oo qasadkeedu waa qiraan. see buu ku noqon karaa? lianna ruuxa xajka xarman iyo ruuxa yani xaj keliya xarman iyo ruuxa qiraanka xarman waa isku camal sooma, saan soo sheegnayba. allaahumma xarmashada hore iyo hadyiga mooye waa isku camal. marka sidaa daraaddeed camalkii maadaama uu isku mid yahay bay waxay ka fahamtay inuu nebigu sal lay slam ahaa mufrid inuu ahaa. taana iyadana waa jawaab kale wey. marka aad waxaa masaladaa ugu dheeraanaya si aan masiil lahayn ninka la yidhaahdo alcallaama ibnu alqayim kitaabkii zaadulmacaadka. ma arag nin sidaas yani uga niqaashay taqriiban khaasan masaa-isha xajka siduu macnaha u qaada dhigay. aad buu uga hadlay macnaa taqriiban 100 iyo dhowr iyo 10 safxo wax ka badan
buu kaga hadlay xajka nabiga sallallahu alayhi wasallam saas macna marka u laabto ayib wa ahalla rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam bil hajj marka wuxuu leeyahay riwaayaadka tilmaamaya xaj kaliya inuu nabigu xarmaday in la yiraahdo hadii rajxid la galana oo la yiraahdo hal kale rajxana waa laga xoog badan yahay hadii kale oo tarjiixa laga tago hal jamciye la yiraahdana qaabka hadda aan tilmaanay baa lagu jamcinaya laakiin riwaayaadka oranaya nabigu inuu qaarin ahaa baa mar walba kana sariixsan xagga dilaalada xagga subuudkana ka xoog badan khulaasadu waa inta macna ayib fa amma man ahalla iddi harmata bil hajj hajj ruuxi harmaday oo ama say jama'a kulmi al hajj wal umrata kulmi lam yahillu maynan halalubin hatta kana ila ka hada yawmun nahri maalinta yani dhuundhowga xoolaha la dhuundhabayo la gowracayo maalinka intii laga gaaray meena halaalobin oo maalinka tobanaad macna saas weeyaan ayib laakiin dadkii umra kaliya iyagu harmaday ayagu way halaalobin soma acmaasha umrada markay guteen waa dadkii mutamaticiinta ahaa qaal imaamku wuxuu xadathana xadiiskana waxa laga fahmayaa saddexdiiba wuu sheegay tamattuca qiraanka iyo ifraadka qaal imaamku wuxuu xadathana muhammad ibn bashar bundar qaal wuxuu xadathana gundaru محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة الكوفي عن علي بن حسين زين العابدين عن مروان بن الحكم قال شهدت وحان حاضري عثمان وعليا رضي الله عنهما عثمان يا علي بن قبتوغها والحال عثمان ينهى الربي عن المتعة سوى متعة الربي عثمان يا علي بن لتشوغي يضع عثمان ودتك أدي ديه متعة يعني متعة الحج بالقوضة oo macnihiisu yahay in acmaashii umrada la hormariyo kadibna xajkii laga dambaysiyo saas macna umrada inta laga xalaalo mutacada soo sheegnay yani tamattuci wa mutacada wuxuu ka wadaa tamattuci ama ma ahe qiraankiibu ka wadaa qiraanka xataa waa gali kara oo saxaabada tamattuca iyo qiraanka isku mid bay u yaqaaneen in badan oo kamid ah saas macna aayadana loo wada taliishadaayo faman tamattaca بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وحسوق دقلي إليهن قارنك إيا متمتعة لوضع متمتع على ليك يعني اللغة دي السلف هو أي استعمال الشرين تمتع قارنك نواكدعة متمتع نواكدعة ولوضع دو التمتع انتو كجتشرا اللغاهان مرك اللي هذا كان عمرنا انتو سمية كحلالوبي مركو حلالوبي سو وحي لودي دي أمبنانا تمتع بسميون راح يستمرك صوما كان قارن كنا تمتع وكجتشرا بدلكي حج كانوا سفر جوني وسمين لها عمرنا سفر جوني وسمين لها يلبضوا ذي بهال سفر وسمي لبضوا ذي أعماش ودين وإصلاح الشيء صنع تمتع ما يسجل هل كاس يسجل معنا وحويا كي إطلاقيا طيب عثمان مركز تمتع السفر بشري وعثمان ينهى يسوق الربا عن المتعة التمتع حج وأن يجمع إلا كل ميو ديري ترى بينهما حج في عمرة ووحو يعني أورنج ترى إفرادك هل إفراديو فلما رأى مركو أرك علي عثمان سايلي أي أهل حرمضي بهما حج في عمرة بسلا حرمضي ووحو لبيك بعمرة وحجة إله حج عمره هيا كوكو أجيبي قال وحو لي ما كنت ميهبوري علي بعرني لأدعمت كتجي سنة النبي نبي السنة لقول أحد روح هذا الكي وتج ما يبر عثمان باهيري هذا النبي محمد بس يريد أن ماشى هيناي من النبي محمد هذا الكيسان عثمان برتي وتجينا ما يبر يلي من مدة أيضا معنا ساسيا عثمان وحى وجوه الرئيسان صومر نبأ عمر بوجوه الرئيس ساسي معنا لكن عمر تقريبا عذر دار كيسوح وها إنه النبي السمي وأجهبه صحابة معناها أمري laakiin ma ayaga oo biyo ka dhibdhibcahayaan bay maalinka sidii xajka aadi ciladaas ah hadaba fiirsataan waa ciladii ku bixisay saxaabadu maalinkuu nabigu yiri fasakha umradiina ciladii ay yaani uga yara difqsadeen inay amarka qaataan taalafteeda yahay oo waxay yiraahdeen nabiyow ma intaanu reeraha naga caaw aragno oo anagoo biyihii aan ku qoysana naga tifqayaan qaarna waxay yiraahdeen dakarka naga ayo anagoo minidii ka daadanayso miyaanu aadaynaa badeen xajka marka waa ciladii lafteedii way ciladii nabiga saxaabadu ay u sheegeen uu san ka garowsanin buu Umar u cuskaday mutacada diiditaankeeda ama tamattuca diiditaankiisa macna saas weeyaan xadiis marka wuxuu daliil yahay tamattuca iyo qiraanka labaduba waxa laga faa'iideysanayaa xadiiska yaani ninka culimada wixii cilmiga uu hayo inuu muujiyo oo dadka u muujiyo macna waxa kale laga faa'iideysanayaa
madaxda in masaa-isha cilmiga lagala doodi karo. waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa Cuthmaan tamatuc waa xaaraam ma lahayn laakiin wuxuu lahaa waa laga fadli badan oo ifraadka ka fadli badan buu qabay macna saas daradeed buu u diiri jiray macna. ayib waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa masalada usuuliyada oo ninku hadduu mujtahidka ah nin kaloo mujtahid ah ra'yigiisa kuma laazimin karo saas macna mujtahid ra'yigiisa kuma laazimin karo isagoo Cuthmaan khaliifkii ah buusan haddana cali ibn abi aalib ra'yigiisa ku laazimin karin laanna labadoodu waa laba mujtahid wey macna saas. قال يا كحول حدثنا موسى بن إسماعيل الأودكي قال حول حدثنا وهيب بن خالد قال حول حدثنا ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حول كانوا وحي أهايين يرون كوع اعتقادية صحابة دي أما الجاهلية دي يرون وحي أهايين كوع اعتقادية أن العمرة عمرة وفي أشهر الحج بلا حج كدحض وضعهاته من أفجر الفجور إنيتا فاجر نمت أقو فاجر سن في الأرض دونك دحدث صار الجاهلية اعتقادين كده يعني الجاهلية دي قبل الإسلام وهي معنا عرفت ساسي أركتير بلاها حجك أو عمر يستو دم باللقلك أقوى وين إنه كمديه باعتقادين كده معنا ويجعلون وحينا يالي كده المحرمة بش محرمنا سفرا بيكدك كده سفر يا محرم لو يسكب بدلي كده يعني وطي آيات الشيطان إنما النسيء زيادة في الكفر oo waxay sameyn jireen yaani niman waxay ahaayeen xoolaha kala dhaco oo kala qaado oo isdilo oo dhiigay daadinayeen xoolaha ay dhacayaan ay u hiloobi jireen marka dulhijja dulqa'da wa bil yaani bilaha xurmada la kamid Sooma dulhijjana waa sidoo kale muharramna waa sidoo kale saddex bilood oo xurmo leh inay israacaan oo saddexda bilood ba dhiigay daadinayeen iyo xoolaha ay dhacayeen ay saddex bilood moogaadaan arrinkaas dhibi jiray markaasay markay dulqacda iyo dulxijja soo dhaafaan bay dhihi jireen ma bil kale aan ku daraynaa maya muharram xukumkay lahaan jirtay oo xurmada ahaa aynu dib u dhigno ma garat bishii muharram ahayd safar aan ka dhigno muharram xukumkeediina safarta dambe ha la siiyo bishaan ka faraqasano bishan muharram markii laga faraqasado wixii la dhici kara la dhaco wixii la dili kara la dilo oo islaayaan oo bishii safar ay soo gasho bay markaa waxay ka dhigi jireen bil xurmale oo xukunkii muharram bay siin jireen macna saas weeyaan ayib wayajcaluuna waxay ka dhigi jireen almuharrama bisha muharram waxay ka dhigi jireen safaran oo xukunkii xurmada ee ay safar ay lahayd yaani muharram ay lahayd bay safar u yaani dib ugu dhigi jireen macna safar bay siin jireen wayaquluuna waxay oran jireen ida bara aw baraa haduu ida markuu bogsoodo ad-dabaru ida bara ad-dabar وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر وسجع ولي معنى يعني وأحكام صدق يجي الرميسانين وعدي جرين إذا برأ هدو بكسودو الدبر نبرك دبرك واحد لله جيل مركز الله صاروه يعني فرك الله صاري حقيتانك وكسميو ayaa dabarka la yiraahdaa nabarka uu geelo u geystay xoqitaanka uu xoqo boog baa sameeysan Soomaa boogta iyo nabarkaas waxa la yiraahdaa dabar la yiraahdaa Soomaali gooriya waa u garawayaan bay waxa la yiraahdaa garbabeelku waa khaas garbabeelka garbaha dulasho la yiraahdaa laakiin hadduu sintu dulasho maxaa la dhahaa ma isla garbabeelba adiga xoqankaas la dhahay geelo uu yaani kurkiisa xoqmo وحلا صار يدرس طيب إذا برأ الدبر هدي معناه وحوي بوقتي أي بوكسوت أو عفا أو ترم الأثر راتكينا ماشي راتكي أي ترترنتوي معنا أما جيلي حجك لقى كان اللجوء هذه راتكيسي بابعه أو انسلخ أي دماته سفر بشي سفرنا أي دماته ويكوران حي محرم تينو قانون حلت العمرة عمرتي مركا ويؤبن لأنتهي لمن عدي اعتمر عمري سنة ساسي معنا يعني جيلا أيليهين هدي بوكتي سو بوكسوتو وجيلي حجك أيكو آذين بشي ذي الحجة صوما هدي بوكتي سي بوكسوتو مدك سوريكتوي معنا راتكينا ترمو يعني بشي سفرنا ومحرم إناء إنك أي بحضه محاسوق ليس مركا ميدا يقو مركا محرم ويقانين صوما مركا كذب يعني حلت العمرة
liman ictamar ciddii cumraysanaysa markaasay cumra u bannaantay dhihi jireen macnaha saas weyaan ayib oo macnaha waxay ka wadaan bisha safar yani bisha safar bay cumrada u dibdhigi jireenoo bilaha xajka macnaheedu waxa weyaan cumrada maynan ogolayn saa unba macnaha ujeedooda ayib qadima nabiyu nabigaa marka soo galay sal alay wasalam qadima nabiyu nebigu wuxuu soo galay sal lay slam iyo asxaabu asxaabtiisu waxay soo galeen magaalada maka sabiixata raabicatin subaxdii afraad dilxija subaxdeedii afraad muhilliina xaala yihiin kuwa xarmanaya bilxaji iyagoo xaj xarman yani iyagoo xaj talbiyeysana wey labayk allahuma xajan faamarahum nebigu wuxuu amray sal lay slam an yajcaluuha inay ka dhigaan xajkoodii cumratan cumro inay ka dhigaan fatacadama waa weynaaday daalika arrinkaasi cindahum agtood aad buu ugu weynaaday maxaa yeele caadadoodii iyo dhaqankoodii bay garmarsan tahay sooma fujuur bayba u arkaanba saas daraaddeed waa arrinku ula cuslaaday faqaaluu waxay dhaheen ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ayulxilli xalaaloobid kiisee baanu xalaaloobaynaa xalaaloobid kee ah yani waxaad moodaa inay xalaaloobid dhowr nooca yaqaaneen oo kala waaweyn kee xalaaloobidda aadna leedahay xalaalooba waa kii nooce aha wey qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam xillun xalaaloobid weeye kulluhu dhammaantii yani xalaaloobid dhammaystiran wey xalaaloobid dhammaystiranoo xaasaskii idiin xalaal noqonayaan dharkii idiin xalaal noqonayo dhiibkii idiin xalaal noqonayo ugaadha idiin xalaal noqonayso wax alla wixii la diidoo dhan idiin xalaal noqonayo oo waxba aan laga reebayni wey buu nebigu sal lay waslam saas wey maana ayib xadiisku marka wuxuu ku cadyahay iyaduna fasku lxaji ila alcumra saas xadiiskuna isagoo ku tusaya macna qaala imaamku wuxuu yihi xadathana moxamed ibnu musanna azamin qala wuxuu yihi xadathana gundar moxamed ibnu jacfar qala wuxuu yihi xadathana shucbatu waxaa la leeyahay nebigu sal lay wasalam markii ugu horreysay dulxulayfe kasoo tegeen waxaynu nidhi isagoon ku adkaynin buu khiyaar geliyey sooma haddana sarif buu ku celiyey haddana duduwa buu ku celiyey markii ay yimaadeen xajka dawaafka bilaabeen yuu amar laazima siiyey intaasoo dhan maxaa loo soo tartiibinayay waxaa loo soo tartiibinaya caadadana tartiib looga goynayay saas way maana leanna shareecada waxay isticmaashaa waxa la yidhaha tadriij bulshadu waxay caado u soo lahaan jirtay markii la doonaya in laga jaro markaba amar an lama saaree laakiin tartiib baa looga jaraa tartiib sidii maala khamradoo kale soo xusuneed taasoo kaleeto wey macnaha tartiibku marka saas sababkiisu aha qaala imaamku wuxuu yihi xadathana moxamed sanna qala wuxuu yihi xadathana gundarun moxamed ibnu jacfar qala wuxu uhi xadathana shucbatu bn alxajaaj can qays bni muslimin can faariq bni shihaabin can abi muusa radi allahu canh qaala wuxu uhi qadimtu waan soo galay cala nabiy nebiga dushiisaan usoo galay sal lay wasalam faamaranii wuxuu amray bilxilli xalaaloobid buu amray waan soo marnay xadiiska abu muusa alashcari sooma yaman markuu ka yimid bay ahayd hadii ma wadaa maya xalaalo buu nebigu ku yuri sal lay waslam cumro la imo waxaa laga qaadan xadiidkanna fasku lxaji ila alcumra saas wey macana xaj ruuxii soo xajiyey inuu cumro u bedelayo cumradii intuu guto uu xalaaloobaya markaa kadib qaala imaamku wuxuu yihi xadathana ismaaciil ibn abi weys qala wuxu uhi xadathanii malikun ibn anas qaala imaamku wuxuu yihi bukhaari wey waxadathana cabdullahi ibnu yuusuf qala wuxu uhi akhbarana malikun laba sheekh buu macnaha bukhaari leey can naafic buu ka wariyey maalik can ibni cumara can xafsata radi allahu canhum zawji nabiyi ahayd nabiga xaaskiisa sal lay slam annaha iyadu qaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa sha'nu nnaasi dadka xaalkoodu muxuu yahay oo xalluu ay ugu xalaaloobeen bicumratin cumro ay ugu xalaaloobeen ayb walam taxlil anta adiguna aadan xalaaloobin min cumratika cumradaada adiguna xalaaloobin maxay dadkiina intay cumro u guteen u xalaaloobeen adiguna aad yani xarmanaantaadii baaqi ugu tahay bay ku tiri ayb qaala wuxuu nebigu sal lay waslam innii anigu labadtu waan dhajiyey ra'sii madaxayga yani waan dharoobayoo xabagtii wixii baan ku dharoobo waan dhajiyey ayb waa timaha waxaa laga wada madaxa maha yani labadtu ra'sii ay shacra ra'sii wey wa qalladtu waan u qoorgeliyey hadyigaygana waan u qoorgeliyey kabihii iyo wixii googo'naayo calaamada u ahaan jiray baan qoorta uga laalaadiyey oo hadyi baan keenay buu ka wadaa falaa axillu ma xalaaloobayo marka xataa anxara ilaa aan gowraco buu nabi uri sal lay slam oo maalinka tobnaad yani uu gowraco nabigu sal lay sl saas mana ayib xadiiska waxaa laga qaadanaya ruuxii hadyi keena inuusan xalaaloobaynin ilaa maalinta tobnaad laga gaadho waana madhabka abu xaniifa iyo axmed saas way macana xadiisku waxaa kaloo uu faa'iideynayaa qiraanka saddexdii nusug ee soo sheegnay qiraan buu faa'iideynayo nebigu sal lay wasalam inuu xaj iyo cumro isagu isku daray taasay macnaa faa'ideynaysa sababka u diiday inuu xalaaloobayna inuu ahaa
hadyiguu waday saan horeyba usoo marnay qaala imaamku wuxu uhi xadaana aadam ibn abi yaas qala wuxu uhi xadaana shucbat ibn alxajaaj qala wuxu uhi akhbarana abu jamra nasr bnu cimraan addubaci qaala wuxuu uhi tamatactu waan mutacaystay buui waan tamatucay fanahaanii waxaa ii diiday naasun dad baa ii diiday buui fasa'altu waxaan weydiiyey buui ibna cabaasin radia allahu canhuma fa amaranii wuu amray wado buu yidhi tamatucaaga wado ha ka dhegaysan fara'aytu waxaan arkay buu ihi filmanaami markaan tamatucaygii dhammaystay fara'aytu waxaan arkay filmanaami hurdada waxaan ku arkay oo ku riyooday wey kaana rajulan sidoo nin yaquulu uu leeyahay lii aniga ugu leeyahay xajun mabruurun wa cumratun mutaqabala saasaan ku riyooday buui xajun xaj weye xajkaagii mabruurun oo la aqbalay wa cumratun cumro weye mutaqabalatun oo la aqbalay nin baa riyada iigu yimid oo intaa ii sheegay buui fa akhbartu waxaan u sheegay buui ibna cabaasin baan u sheegay cabdullahi ibn cabbaas baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi sunnatu nabiyi sal alla alay wasalam yacni haadihi sunnatu nabiy sal lla alay slam waa sunnadii nebiga dariiqadii nebigaasaa ahaydoo tamatuca macnaha in macnaha la tamatuco ayb faqaala lii wuxuu yidhi sunnadii nebigu wuxuu ka wada yani nebigu saxaabadiisu amray buu ka wadaa leanna sunnada qaarna waa ficliya qaarna waa qawliya sooma sunna qawliya wey faqaala lii wuxuu igu yidhi qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi lii aniga wuxuu igu yidhi haddaanahay abu jamra aqim nagow cindii agtayda faajcala yeeleena laka adigaan ku yeele sahman yacni qayb min maali xoolahayga aan qayb kaaga yeeleen xoogaa ila joog buudhaan xoolahayga wax kaa siiye qaala shucbatu wuxuu yidhi faqultu waxaan ku idhi buuhi abu jamra lima oo maxaa laguu siinayaa xoolaha muxuu kuu siinaya sababka uu kuu siinaya maxayta faqaala wuxuu idhi liru'yaa riyadii daraaddeed baa laygu siinaya allatii riyadaasoo ra'aytu aan arkay buui waa abaalgud maadaama ibnu cabbaas siduu qabay riyo waafaqsan aan ku riyooday una sheegay taasuu abaalgud iga siinaya buuhi macnaha oo xoolihiisa qayb ka mida igu siinaya ayb xadiidka marka waxaa laga faa'idaysanayaa yacni tamatucu inuu mashruuc yahay cabdullahi ibni cabbaas wuxuu ka mid ahaa saxaabadii cumar ibni khataab iyo cusmaan ibni cafaan iyo aad yani u dilay oo ka hor yimid markay tamatuca diideen cabdullahi ibni cabbaas cimraan ibni xusayn ninka la yidhaahdo cali bni abi aalib saxaabo badanoo yani ka hor timid bay ka mid ahayen macana saas ayb ayagaana madhabkooda xoog badnaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa ciddii waxaad ku faraxda kuu sheega in la maamuuso inay sunno tahay xadiidkii kacabna waad garanaysaan isagana ayb waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa ninka caalimka ah haddii loo sheego wax fatwadiisa ama xaqii uu ku tegay waafaqsan inuu farxo ayadana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa riyada ruuxa mu'minkaa in la weheshan karo laakiin aan la deliishan karin saas way maanaa istinaas bay yidhahda culimadu farqi baa u dhexeeya xujaysi iyo istinaas suufiyada u haysata inay riyadu xujo tahay oo wadaadku haddiyoodo riyadiis xaq tahay laakiin riyadu siduu nebigu sheegay sal alay wasalam shayddaanna way ka timaadaa malagna way ka timaadaa midda malagga ka timaadaay waa xaq midda shayddaanka ka timaadana waa been saas way macnaa maxaad ku kala garan marka lama kala saari karo macnaa saas wey riyada mu'minkaee marka runtae malagga ka timaada waa miduu nebigu ku tilmaamay sal alay wasalam waa juz ka mida 40 juz ee nubuwada u qaybsanto saas way macnaa waa markay tahay riyada malagga ka timid macnaa aynan ahayn shayaadiinta macnaha waswaaskooda aynan ahayn ayb waxaa kaloo laga qaadanaya markii waxaad ku farxda aragto in la takbiirsado saas way macnaa maxaa yeele riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay cabdullahi ibni cabbaas inuu yidhi markii loo sheegay riyada allahu akbar inuu yidhi ayaa macnaa iyadana laga qaadanaya waxaad ku farxda aragto in la takbiirsan karo waa laga qaadan bal waxaaba ku cadba xadiiskii nebigu dhihi jiray sal alay wasalam miyaydaan ku raalli noqonaynin inaad noqotaan ulusu ahli ljanna markuu nebigu yuri saxaabada soomayna takbiirsan nisfu ahli ljanna fakabbaruu saas way macnaa markaad waxaa kaa farxiya aad aragto in la takbiirsan karo mashruuciyadeedana waa laga qaadanaya qala imamku wuxu uhi xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn qala wuxu uhi xadaana abu shihaab muusa bnu naafic alxannaat baa la yidhahdaa qaala wuxu uhi qadimtu waxaan soo galay makaan imid bui mutamatican xaalo aan ahay mid macnaha tamatuc sameeyey makata maka ayaan soo galay bicumratin cumro anoo ku tamatucay ayb fadakhalnaa waxaan soo gallay buuhi qabla tarwiyati maalinta tarwiye la yidhaahdo horteed bi 3 ayaamin 3 beri yowmu tarwiya waa maalinta 8aad baynu nisoomaha 3 beri ka hor baan magaalada maka nimid buui
faqaala lii wuxuu yidhi buuhi unaasun dad baa waxay ugu yidhahdeen oo min ahli makkata reer maka ka mid a tasiiru waxay ahaani al'aana hadda xajatuka dheh xajkaagu waxay noqoni makiyatan makiyay noqoni hadduu xajkaagii maki noqday alla maxaad khasaarta saasay dhehen yani oo xajka makiga maxay ka wadaan xajka makiga waxay ka wadaan yani sawaabkiisa iyo ajirkiisaa yar maxaa yeelay mashaqo iyo dhib looma soo marin sooma raggan soo jeexayo dhulka soo jeexay soo rafaaday soo oomay iyo nin gurigiisa intuu dalacdalac ka yidhi aayar uun meesha gaadhay isku ajir ma aha bay leeyihi marka xajkaagii xaj maki buu noqday oo ree makaad la xaj noqotayoo sawaabkii baa kaa yaraaday waa macnaha labaadna waxa weeye waxay ka wadaan miiqaadkii ka soo xarman mayside xajkaagu ree makoo kalaad noqotayoo maalinka sideedaad marka la gaadho meeshan unbaad labayk allaahuma xajan ka dhigood ka dhaqaaq saas macna ayib marka waxoogaa waxay yani ka wadaan sidii fiicnayd baad khilaaftay wy macna oo tamatucan ay u diidan yihiin macna ayib fadakaltu waan galay buuhi calaa cadaain cadaan u galay cada bna abi rabax weye taabicigii astaftiihi anigoo fatwo weydiinay faqaala wuxuu idhi xadaanii jaabir bnu cabdillaahi radi allahu canhuma annahu isagu xaja inuu xajiyey maca nabiy nebiga la jirankiisa inuu xajiyey buu ii sheegay yowma saaqal budna hadiga maalinkuu soo kaxeeyey macahu la jirankiisa markuu nebigu hadiga kaxeeyey maalinkaa inuu la xajiyey buu ii sheegay nebiga sal lay slm maalinka wuxuu ka wadaa macnaha sanadkii yani xajatulwadaac wey macnaha waqad ahalluu wuxuu ii sheegay qad ahalluu inay xarmadeen saxaabadu bilxaji xaj mufradan oo la keli yeelay faqaala lahum markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi axilluu xalaalooba min ixraamikum xarmashadiin yani xarmashadan aad xajka keliya xarmateen ka xalaalooba oo waxaad ku xalaalowdaan bidawaafilbeyti beytkood dawaaftaan wa bayna asafa waalmarwati ood iyadana sacyi iyo dawaaf samaysaan wa qasiruu gaabiya uma kadibna aqiimuu nagaada xalaalan xaalo aatiin kuwa xalaal ah xataa idaa kaana markuu ahaado yowmu tarwiyati maalinta sideedaad yowmu tarwiya la yidhaahdo faahilluu xarmada bilxaji xaj xarmada marka gaabiya muxuu nabigu yidhi sal lay slam ilaa waxaan u tegi doonnaa gaabinta iyo xiiriddaa fadli badan soo maha gaabiya muxuu yidhi leanna xajkii baa soo dhow soo maha saas daraaddeed culamadu waxay yidhahdaan haddaad mutamatic tahay xajka maalmihiisiina soo dhowya kugu soo dhow yahay waxaa fiican inaad gaabsato timaha oodan xiirin oo aad macnaha ilan xajka laftiisa wuxuu u baahan doonaa sooma xiirid buu u baahan doonaa tima u reeb wey macnaha xajka tima u reeb madaxaa wada cadaynayna macnaha laakiin haddii ama xajkii durugsan yaho timuhu soo bixi doonaan xiiriddaa fadli badan ama meehe xaj keliyaba uu yahay iyadana xiiriddaa fadli badan saas wey macnaha ayib wajcaluu yeela buu nebi uri sal lay waslam allatii midii qadimtum aad la soo gasheen bihaa iyada mutcatan cumro ka dhiga tii aad la soo gasheenna cumro u bedela buu nebi uri sal lay waslam yani mutcada cumra laga wadaa lianna yani raaxaysiga iyo xalaaloobidda wax ku xalaaloobayaan iyaduu ku imaanaya sooma sidaas daraaddeed baa mutca loogu magacaabay macnaha cumrada faqaaluu waxay yidhahdeen kayfa sidee baan najcaluha u yeelaynaa mutcatan see mutca uga dhigaynaa nebigu walxaal qad samaynaa aan magacownay alxaja xaj baaban soo magacownay yani markaan soo xarmanayna wy annagoo xaj soo magacownay see baan hadda cumro ugu bedelaynaa markaan maka nimid faqala wuxu nabig sal lay slam ifcaluu sameeya maa amartukum waxaan idin amray wuxuu riwaayo kale ahay billaahi atucallimuunanii billaah ilaahay baan idinku dhaariyey ma ilahay baad baraysaan buhi aniga maanaa hadda ilahay baraysaan yeela buuhi waxaan idin faray nebigu sal lay slm isagoo aad u cadhaysan nebigu sal lay slm ifcaluu sameeya maa amartukum falowlaa annii haddii lala-yahay annii anugu suqta inaan soo kaxeeye alhadya hadyi inaan keenay oon soo kaxeeye haddii lala-yahay oyna jiri lahayn la facaltu waxaan samayn lahaa midla aladii kii oo kale amartukum aan idin walaakin laa yaxilu iima bannaana minii aniga laa yaxilu ma xalaaloobayo minii xaggayga xaraamu shay xaraami ii xalaaloobi maayo xataa yabluqa ilaa uu gaadho alhadyu hadyigu ilaa uu gaadho maxillahu yani meeshiisii ilaa uu gaadho saas man maxallahu ama maxillahu yani meeshii uu ku xalaaloobayo lagu qali lahaa ilaa uu gaadho waa maalinka tobnaad iyo mina wey macna ilaa intaa laga gaadhaya anugu ma xalaaloobi karo hadyigana ii diidan laakiin idinku xalaalooba bu nabig sal lay slm fafacaluu sidii bay yeeleen saxaabadii nebigu sal lay waslam yani markii dambe amarka waa qaateen ayib xadiiskani wuxuu isaguna daliil u yahay fasku lxaji ila alcumra ayuu isaguna daliil u yahay waxaa kaloo uu daliil u yahay inuu ruuxu mufrid noqon karo oo ifraad uu xarman karo xaj keliya ayadana saxaabada qaarkood inay xarmanaayeen waa laga qaadanaya qaala imamku wuxu uhi xadaana qutaybata bnu saciid halkaa abu cabdillahi miyuu idiin qoray aniga uu iga jaray qaala abu cabdillahi wuxuu yihi abu shihaabin laysa lahu musnadun yani xadiid
musnad amalaha illa hada kan mooye Abu Shihab waa ninka sanadka ku jira oo soo sheegnay magaciisa in la yiraahdo Musa ibn Nafi' al-Hannat wuxuu leeyahay xadiis musnad ah oo xiriirsan kuma laha illa xadiiskan mooyaan yani waa rag ruwaad aad u xadiis yar ayuu kamid yahay macna tilmaamay قال ابن حجر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حجر حدثنا حجاج بن محمد الأعور نينك دليل هذا حديث يريحي معناه هذا ما ضعني ما بريد ما صوت ثقة أبو حدنا حديث يران كرام معنا قال حجر حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال حجر اختلف وحى اختلافي علي وعثمان رضي الله عنهما والحال هما لبضوا بعصفان يقع عصفان كسوغا وما المكاك كذا في المتعة تمتع اسكو خلافين فقال علي وحوري ما تريد ما دونيسيد عثمان إلا أن تنهى إنا تديدو ضدك إنا تديدو أو كرب تمويه عن أمر كاسو فعله النبي صلى الله عليه وسلم عمراء عثمان ضنك لمليه لي وحاضن ربطا وح نبي سميه ضدك إنا كربت فلما رأى مركو أركي علي فلما رأى مركو أركي ذلك أرنك يعني ديد عثمان ذلك أرنك علي مركو أركي يؤهل حرمدي بهما حجكي عمرتي جميعا على إيديهن يعني تمتع مقدكت صفي معنا طيب أما ما هي القران لأن التمتع هي قران كنت تقريبا سافر بؤس وشيغني يعني لغة السلف كأنت بدن اسكم عليه كنت ماذا معنا طيب باب من لبى بالحج وسماه مركز صدح دي النسك صدح قيبود معناه وحوي ضدك واحد شيان صدح دو بصدح لاوي معنا مد واحد دحيه مجر midda dad badan ay sameeyaan oo ah in xaj kaliya inta la sameeyo oo ifraad uu ruuxu xarmado xajka markuu dhameeyo kadib oo umro ka dambaysiyo midda iyadii waa khilaafu sunnah saas macna dadku u badan inta badanna dadku waxay u sameeyaan waxay ka cararayaan hadiga xoolaha laga carreeyo waa laga xeeladaysanaya macna intaas oo khalad ba markuu ku jirto shariicada khilaafsan ومدة كوباد هديجي إلهي سبحانه وتعالى إيو رسول كيسو أي تشيديين بلغة حيلة ذي سنية شريعنا حيلة ذي سكوا بنانا ومدة اللغادة عمردي شرعي بيلي حجك هلغو هرمريو يا لغد دبلغيا ومدة صدحادة حالة نادر وحالة عائشة وكلام ويانا النبي كما سبنا صلوات ربي والسلام عليه مركا وخلد وين وددكو أي قليان بل مذاهب تقاركود با التبريريو waxay yiraahdeen intaad xaj marka hore iska aad kadibna umra ka dambeysay waa laga fiicay way khilaafsan tahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam marka saddexda hore oo waliba tamattu uu ugu fadli badan yahay bal culimada qaar kood ay waajibinayaan Abdullah ibn Abbas baa kamid ragga waajibinay waxa doortay ibn Qayyim sidoo kale mucaasiriinta waxa doortay Sheikh Al-Albani in macna waxa way tamattu uu waajib yahay ruuxi aan hadi wadin saas macna isaga marka ugu fadli badan marka adillada la fiiriyo saas daraaddeed ruuxu neef ariya waxba yeeli maaye إنه تمتع عيسى سمي سجان أروح بدن باب من لبى عدي تلبية ستي وبابها بالحج حج تلبية ستي أو سماه مرعابي يعني عدي حج حرمته معنا ولبيك بحج تري وهذا نولي بحج كمرعاب قال الإمام كحول حدثنا مسدد ابن مسرهد قال كحول حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني قال كحول سمعت وحن مغلى مجاهدا ويقول له حدثنا وحن نور من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحول قدمنا وانصوق لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لتشرن كيسا انصوق لي والحال نحن أنه نقول أن لنا لبيك اللهم لبيك بحج صافي معنا تلبية ومرك حج لغو ضروري معنا حج لغو عدي انت أمي معنا لبيك اللهم لبيك بحج ساسا لنا فأمرنا النبي فأمرنا وحو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنان عمره كدغنوي فجعلناها مركاسان كدغني حجدي عمره مركا كدغنا معنا عمره وبدلي لكن markii hore waxaan ku niina anagoo leh labbayk allahumma bihajj oo hajj macna soo xarmanay saas macna xadiiska sidoo kaleeto yaani wuxuu daliil u yahay inay banaan tahay ruuxi hajj kaliya ku tagay intuu san dawaafka samaynin kahor dawaaful quduumka intuu samaynin kahor inuu hajkiisi umro u bedeli karo وانا مد اللي يلاهدو فسخ الحج إلى العمرة وحانا قبع علماء فربضان ويتمدين عبد الله بن عباس أبو موسى الأشعري علي بن أبي طالب أحمد بن حنبل علماء أهل الظاهر كا وحانا الرجحي العلامة ابن القيم صافي معنا إنه بنانتهي لكن جمهورته وحي لين فسخ ما بنانا
laakiin daahirka axaadiis soomeyna soo marin waxay leeyihiin khaas bay ahayd laakiin wax khusuusiye kutusaya ma jiro qaacidadana horaan usoo sheegno qaacidadu waxa weeye wixii nas ee qur-aanka ama sunnada ku sugan haddii macnihiisa khaas laga wado dad gooni ah uu ku saabsan yahay waa in la helo daliil kutusayo inuu khaas yahay haddii daliil khaas ka dhigayo la waayo khusuusiyadiisa kutusaya asalku waa inuu nasku caam yahay macnaha saas weeyaan oo dadkao dhan u yaalla baabu tamatuci buu baabu yahay tamatuci ayb ayuu baabu yahay ma intaa keliyu idiin qoray muxuu ku daray ima qoran saasaa fiican baabu tamatuci ayuu baabu yahay calaa cahdi rasuuli llahi sal alay wasalam rasuulka waktigiisii la tamatuco wuxuu ka wadaa tamatuc wuu soo sheegay laakiin halkan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo tamatuca haba la isku khilaafo gadaal dambe laakiin waktigii nebiga waa la sameeyey intaasuu rabaa inuu isbaatiyo sababta inuu soo celiyo keentayna waxa weeye masalada khilaafkeeda waxa mashhuur ahaa cinda salafka agtooda masale khilaafkeedu uu caan yahay bay ahay inuu marka mudnaan gooniya siyuu u soo celiyey oo uu tilmaamo inay khilaafiye tahay laakiin wax kastoo la yidhaahdaba gadaal dambe waxaa laysla ogolaaday tamatuca inuu bannaan yahay bal saan soo sheegay waxaaba raajixa inuu ugu fadli badan yahay saddexda nooc bal qaar baaba waajibinaya macnaha marka wuxuu ahaa khilaaf hore oo dhammaaday saas macnaha ayb قال إمام كحول حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حول حدثنا همام ابن يحيى ابن دينار العوذي عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال حول حدثني وحي والرأي مطرف ابن عبد الله بن شقير عن عمران ابن حسين الخزاعي صحابي رضي الله عنه قال حول تمتعنا وان تمتعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وقت جيسي فنزل قرآن كيف سود جيب قرآن كيف سود جيب وحكولا نبي وقت جيسي saxaabada intooda badan way tamatuceen sooma qur-aankuna wuxuu ku soo degay macnahaasuu ku soo degay oo aayaddii buu tilmaamayaa faman tamataca bilcumrati ila alxaji marka sunnadii iyo qur-aankiiba waxay isku waafaqeen inuu tamatuc mashruuc yahay sooma ayb qaala rajulu nin baa marka wuxuu yidhi bira'yihi ra'yigiisa wuxuu ku yidhi maashaa wuxuu doonay nin baa marka iska hadlay oo wixii la qumanuun iska yidhi iyuu ku wadaa wuxuu ku wadaa cumar bn khataab radi allahu canhu iyo raggii ku raacay inuusan tamatucu bannaanayn marka la iska daba hadhi maayo diintani sidaasay ku ilaashantahay mid ogaada sideedaba diintan haddaan wax isnaqdiye la helin oo ninkii wax sheegaba aan la dhihin sug aan la dhihin hadduu sugi waayana aan hilfaha loo qaadin diintani ma sugnaanayso saas maana waxba yaan loo nixin nin khaldamay ama diinta wax ku soo daray oo la radinayo oo khaladkiisii meesha laga saarayo yaan loo nixin diinta ha loo naxo taas waxaan u leeyahay dad baa marka la radinayo dadka khaldamay oo wax laga sheegayo la saxayo yaa waxay leeyihin maxaa waxaan daba dhigay dadka khilaafkanuun maxaa loo daba joogaa oo haddaan la daba joogin madiin baa inoo dhowrsoonaanaysa cumar baa baxsan lawa kaas laysdayn maayo haddaad doonaysa in lagu daayo bannaankaaga iska joogo wax diina ha sheegin waa lagu dayn marka saas macna ayib marka ninka isaga inuu cumar yahay ayaa loo badan yahay laakiin rag badan baa uga dambeeyey cusmaan iyo cabdullaahi ibnu zubayr iyo saxaabo badan baa macnaha ra'yiga yaa la qabay baabu qowli illaahi tacaala ilahay odhahdiisuu baabu yahay uu yidhi dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri ilmasjidi alxaraam aayaddaasuu baabu yahay yani aayaddaasuu fasiraya dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri ilmasjidi alxaraam waxaa ka horraysa waatimu alxaja waalcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wasabcatin ida rajactum tilka casharatun kaamila dalika liman lam yakun ahluhu xaadir ilmasjid alxaraam yani xajka iyo cumrada dhammaystira ninkii xajka iyo cumrada tamatuc ku sameeyo oo isku dara oo cumrada intuu marka hore guta haddana xaj ka dambaysiiya hadyi baa laga rabaa ninkii hadyigaa waaya waxaa laga rabaa 3 beri oo uu ku soomo xajka intuu joogo iyo 7 beri oo uu ku soomo markii uu reerkiisa u noqdo sidaa markii la yidhi waxaa laga dambaysiiyey daalika arrinkaas oo maxay ah tamatuca halkaa wixii daalika tamatuca la soo sheegay liman cid buu u sugnaaday lam yakun aynan ahayn
ahluhu reerkiisu xaadirii almasjidi masaajidka kuwa jooga alxaraami ee xurmada leh masaajidka xurmada leh ruux aan ehelkiisa iyo dadkiisu deganayn baa arrinkaa iska leh arrinku kee wey marka arrinku laba mid wey in tamatucii laga wado cabdullahi ibni cabbaas iyo qolyo la socdaa qaba oo waxay leeyihiin tamatuca sidiisaba waxaa iska leh waxaan ree maka ahayn dadka xaramka degan tamatuc ma leh saas way macana haddayna tamatuc lahayn maxay samaynayaan ifraad bay leeyihin lan iyagu yani xaramkiiba bay iska joogaano mar walba iyagu cumradoodu macnaa waxa waa iska daq sooma mar walba waa iska soo cumraysanaya marka iyagu tamatuc ma laha tamatucu wuxuu khaas ku yahay ninka la yidhahdo asaaqiga oo kor ka yimaada saas way macana ama mehe waxaa la leeyahay daadika arrinkaa oo ah soonkii iyo hadyigii saas macana iyadana waa madhab culimada qaarkood qabaan hadyiga ka dhalanaya tamatuca iyo haddii la waayo oo soo laazimayo arrinkaasi wuxuu khaas ku yahay nin aan xaramka deganayn saas macana xaramka ninkii degan hadyina lagama rabo soonna lagama rabo sidaasina iyadana waa madhab kale oo culimada qaarkood ay ku tageen macna saas marka aayadda tafsiirkeedu doonay inuu fasiro macna dalikada marka saas loo celinayo yaa laga wadaa marka xaadir almasjid alxaraami maxaa laga wadaa yani masaajidka dadka degan maxaa laga wadaa naafic iyo acraj waana maalik siduu qabadaxawina uu rajaxayo waxay leeyihiin waa dadka reer maka ah lianna maka oo dhan baa yaa laga cabiraa marmarka qaarkood masjid alxaraam saas yani waxa way culimada qaar baa ku tegey qowlka kale ee uu ibnu xajar rajaxay waxa weeye waa qowl daawuus iyo daa'ifa min ahli ilcilmi ay qabaanoo waxay leeyihiin maka keliya meehee xaramka inta xaramkaa dadka degan baa xukumkan uu khuseeya oo xaadiri almasjid alxaraami masjidulxaraamka masaajidka keliya meehe laakiin waxaa laga wadaa xaramkoo dhan baa laga wadaa walow makaba ha ka baxsanaadee leanna xaramka qaar baa maka ka baxsan sooma oo magaalada gudaheeda aan ahayn marka xaramkao dhan wixii degan yaa daalika waxay soo gelayaan xaadir almasjid alxaraam madhabkaasuna ibnu xajar rajaxay saas way macana ayb waqaala abu kaamil wuxuu yihi bu ihi waqaala abu kaamil waa tacliiq abu kaamil wuxuu yihi fudayl ibnu xusein albasriyu xadaanaa waxaa noo warray bu hi abu macsharin baa noo warramay abu macshar waxa la yidhahdaa yuusuf ibnu yaziid albara qaala wuxuu yihi xadaanaa cusmaan ibnu khiyaas albahili can cikrimata mawla bni cumar albarbari can ibni cabaasin mawla bni cabaas albarbari can ibni cabaasin radi allahu canhuma annahu su'ila waxaa la weydiiyey can mutcati alxaji xajka mutcadiisaa la weydiiyey maxaa laga wadaa tamatuci wa saas maana mutco kalaa jirta waa mutcada haweenka mutcat nisa iyo mutcat alxaj baa kala jirta mutcat nisa fii kitaabi nikaax baan ugu tegi doonaa waa mas'alada la nasakhay ee shiicadu ay ku hadhay shiicadu qabto laakiin mutcat alxaj waa tamatuca saas wey ayib faqaala wuxuu yidhi ahalla way xarmadeen almuhaajiruuna waalansaar muhaajiriin iyo ansaar wa aswaaju nabiyi iyo nebiga xaasaskiisuba fii xajati alwadaac ayay xarmadeen wa ahlalnaa annaguna waan xarmadnay falamaa qadimnaa markaan soo gallay makata maka markaan soo gallay qaala rasuululahi sal lay slam ayaa rasuulku wuxuu yidhi ijcaluu waxaad yeeshaan ihlaalakum xarmashadiinnii bilxaji aad xarmateen cumratan cumro ka dhiga ilaa man qallada ruux u soo qoorgeliyey mooye alhadya xoolihii ruux hoola keenayo xoolihiisana weliba qoorta usoo suray wixii loo soo suri jiray fadufnaa markaanaasaanu dhawaafnay buu yidhi bilbeyti beytkaanu dhawaafnay wa bisafa waalmarwatina waan dhawaafnay waa sacyigii wa ataynaa waxaanu nimid annisaa haweenkiina waan u tagnay buui haweenkiina waan u tagnay isagu kuma jiro kuwa haweenka u tegey laakiin saxaabadii kale waa maxaa yeele isagu markaa maba qaangaadhin waa hadalkii caaishoo kaleeto yani taqriiban hadal aad moodo isagu inuu ku jiro cabiraya lakin kuma jiro ayb wa atayna annisaa haweenkiina macnaha waa u tagnay wey wa labisnaa waan xidhannay asiyaaba dharkiina waan xidhannay dharkiina naloo diidanaana waa xidhannay lawa xalaaloobeen wa qaala wuxuu yihi nebigu sal lay slam man qallada ruuxii u soo qoorgeliyey alhadya hadyiga xoolihii fa inahu laa yaxilu xalaal uma halow isaga xataa yabluqa waxba uma xalaaloobayaan xataa yabluqa ilaa uu gaadho alhadyu hadyigu maxillahu makaanu xalaaloobidiisa ilaa uu gaadho mana ayb oo macnaha gawriciyo macnaha maalinka tobnaad uma kadib baan amaranaa wuxuuna amray cashiyata tarwiyati yacni tarwiyada galabteedii maalinta tarwiyada la yidhaahdo galabnimadeedii oo duurkiiya macnaha
ومالك سيديات صومة يعني قالوا من العشية ده وحل هذا نسك الضمبي دور كي وحي كبل الضبط هو عشية دور لماذا مركز لقوضا ثم أمرنا النبي قلت أمر عشية التروية أن نهل إنا نحرمنا بالحج حج إنا نحرمنا فإذا فرغنا مركا نكبحنا من المناسك أعماش حج كمركا دمينا أي أن نجيئنا نمت فطفنا مركاسان وضوافنا بالبيت وبس والمروة بان وضوافنا فقد تم مركا وحد ما يصير من حجنا حج كنجا وعلينا الهدي هدينا دوشا نوحا وحكورنا فإذا فرغنا من المناسك وحكوذا مركي انتانو موقوف عرفة صور دميني oonu musdalifa soo barinay oonu mina aanu macnaha jamraadkii soo tuuranay maxaa markaa laaban dawaafkii ahaa dawaaf lifaadii kaas ka wada marka jiina waanu fadufna bil bayti kacbadan dawaafnay wa bis safa wal marwatina wa sa'yigi ka dambeeyay oo maxay saa u yeelan iyaga sa'yigi hore maxay ugu kaaftoomi waayeen ya lianna mutamatti'in bay ahaayeen mutamatti'a waxaan laba sa'yi baa laga rabaa sa'yu al-umra iyo sa'yu al-hajj saas macna bayt faqad tamma marka waxa dhameystirmay buu xajjuna xajkanaga wa alayna dushanada waxa aday al-hadiy hadi bana laga rabaa buu kama qala Allah ta'ala sidu ilaahay ba u yiri fama staysara min al-hadiy faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fi al-hajj wa 7 idha raja'a fama staysara fa alayhi dushi sawaha faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj ninki hajj umra ugu tamattu'a fama staysara fa alayhi dushi sawaha ahaday ما استيسر وحي فضوضاده او من هديه وحي افضوضاده خوله يا لغا ربا فمن لم يجد عدي ان هلين هديه فصيام 3 فعليه دشي سوحا هذا صيام 3 ايام سدح بريسونكوت في الحج وحج دحديسه كصوم و7 يتضوا صونكوت اذا غورتو صوم رجعتم الله بطال وريرين كنا قطاوي معنا طيب فمن لم يجد يعني سدح بري روحي هدي وايه وحوله وحيه وايه حولها نيف اريا وي نيف اريا باوير روحي سياسدنا waa meeshiis hadii toddoba aad neef geelo ku wadaagtaan ama neef loo ku wadaagtaan wada heli kartaan bayib hadiigu waa ka inta ugu yar hadigi ruuxi waayo tabar u waaya waxa laga rabaa inuu 10 bari soomo 3 bari oo uu xajka intuu joogo soomayo iyo 2 bari oo وحديث تضوب بري ومركو ريركيسي ودنكيسي ku noqdo soomay saas macna saddexda bari marka waxa banaan inaad ka hormariso ciida oo yawm arafa marka banka la taagan yahay waad soomi kartaa maalinka ka horeeya sideedana waad soomi kartaa ka toddobana waad soomi kartaa maalmaha ka sii horeeyana waad soomi kartaa badaan meeshii tagtay aan ku tala gashantahay inaad tamattucayso saddexda bari waad sii soomi kartaa adoon xajkiiba guda gelin صف معنا حديث لكن مالك حجك أي خصوصا قشوا أدو سدح دي بريئان سومن وحد سوميسا مالمها اللي هذا أيام التشريق مالمها البورة شبه ومعناها مالك تكوي تبنات لبي التبنات يسدح التبنات ومالمها من اللي تشوفه يتسومي كرتا روح النوع عاصو كلا أكليا اللي أقول يا إنه صومه عيد كلا صوم اللي أقول يا مثل مالمها صف معنا حي حديث عائشة يورين بن عمر بخاري أصول صاري buu nabi wuxuu leeyahay waxay leeyihiin nabigu maalmahaas cid uu soon u ruqseeyay ma jiro ilaa ruuxii hadiga waayay mooyee oo ruuxii hadiga waayay saddexda bari ayyam tashriiqa uu soomi karaa saas macna ayib meesha intaada ka soo tagin baa la rabaa inaad soonto marka wixii toddobada kalena wadankaaga iyo dhulkaaga markaad ku soo noqoto ayib fasiyaamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idha raja'tum ay ila amsarikum baa laga wadaa أمصارك يعني ودمدينا مركز كسر نقطة هي مقالوين كينا طيب الشاة الردي تجزي وأيها جودة يسمى ها والشاة الردي تجزي وجودة يعني وهذا عبد الله بن عباس بتفسير كوطه هذه جوحة أقول الربا جودة يسمى معنا طيب فجمعوا وحي كل ميان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نص كيني لبعي بأي كل ميان في عام سنة تحدي بين الحج والعمرة بكل ميان نص كيني وحليه الجوهري إمامك اللغة نص كيني هدي لنا سينتا معناها للريبو waxaa laga wadaa cibaada laga wadaa laakiin nusu kayni hadii la siinta la godo waxaa laga wadaa buu leeyahay yaani neefka la gowracay sabana nusuk waa neefka la gowracay nuskina waa cibaadada sabana marka hada waa cibaado weey macna laba cibaado isku dareero xajki iyo umradii fa inna allaha ilaahi ta'ala quraya anzalahu wuxuu soo dajiyay jamaacas labada cibaado la isku daray buu soo dajiyay fi kitaabkiisu ku soo dajiyay oo waxa weeyaan
faman tamataca bilcumrati ila alxaji wey ayb wasunnahu waxaana jideeyey nebiyuhu nebigiisuna waa jideeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh wa abaaxa wuu baneeyey nebigu linnaasi dadkiibuu u baneeyey hayra ahli makkata ree maka mooyaane soo ma jeedaan cabdullahi ibni cabbaas marka tamatuca uma ogola waxaan ree maka ahayn ree maka unbuu u ogolyahy sidaasi waa madhabkiisaoo yani waxaa ku waafaqsan culimada xanafiyada tamatuc baa laleeyahy saas maanaa ayb qaala allahu ilahi wuxuu yidhi buu yidhi inayna iyagu tamatuca ku jirin waxaa ku tusaya daalika kaas oo tamatuca horay loo soo sheegay aayadda lagu sheegay liman cid buu u sugnaaday lam yakun uusan ahayn ahluhu reerkiisu xaadirii almasjidi masaajidka kuwa degan alxaraami ee xurmada leh kuwa jooga masaajidka xurmada oo degan baa laga wadaa wa ashhuru lxajina allatii midda weye dakara allahu ilaahay uu sheegay allatii middaasoo dakara allahu ilahay uu sheegay tacaala korhaye bilaa xajka ilaahay uu sheegayna waxa weeye shawaal wadulqacda wadulxija weeye faman tamataca ruuxii tamatuca fii haadihi alashhuri bilaha iyaga facalayhi dushiisa waxaaday damun dhiig inuu daadiyo wax gowraco ow amase sawmun ama soom baa laga raba markuu gowriciiyo hadyigii waayo warafasu rafadka aayadda ku soo aroro yani falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji waalrafasuna aljimaacu waa galmada waalfusuuquna almacaasi waa dembiyada waljidaaluna almiraau waa muranka yani ibn cabaas ree maka uu u diidan yahay ree maka u ogolyahay maa nidhi waxaan ree maka ahayn buu tamatuca u ogolyahay laakiin ree maka waa u diidan yahay mana saasaan yaan ka wani baabulikhtisaali qabaysigii yuu baabu yahay cinda dukhuuli makata maka gelitaankeeda agteeda markii maka la gelayo in la qabaysto wuxuu leeyahay ibnulmundir waa la isla ogol yahay oo culimmadu waa isla ogol yihiin maka markii lasii gelayo ruux hadday u fududaato inuu qabaysto saas way macnaha hadduu ruuxu ka tagana wax ku laazimaya inuusan jirin maxaa yeele waa mustaxab culimmada intooda badanna waxayba yidhaahdeenba weysaa kaga filan ruuxa oo ka deeqi karta saas way macnaha qaala imaamku wuxuu uhi xadaana yacquub ibnu ibraahim qaala wuxuu uhi xadaana ibnu culaya ismaaciil qala wuxu uhi akhbarana ayuub ibn abi tamiima can naafic mawla bni cumar qala wuxu uhi kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radi allahu canhuma idaa dakala hadduu galo adna alxarami idaa goortii dakhala uu galo adna alxarami xaramka qaybihiisa ugu sokeey adna alxaram waxaa laga wadaa meeshiisa ugu horeysa saas maana meesha ugu horeysa xaramka markuu ka galo markaa isaga ugu soo sokaysa xaggiisa ugu soo xigta maana idaa dakhala markuu galo adna alxarami xaramka dhankiisa ugu soo xiga amsaka mid haystu ahaa oo ka afhaysta oo yani joojiya can talbiyati talbiyada ayuu ka afhaysan jiray uma kadibna yabiitu wuu beri jiray bidiiuwan diiuwa meesha la yidhahdo ayuu beri jiray yani toggaasuu beri jiray diiwan uwan tawan intaba saddex arag koo bannaan wey ayb uma kadibna yusallii wuu tukan jiray bihi isaga asubxa subaxu salaada subax buu ku tukan jiray wayaktasilu wuu qabaysan jiray wayuxadisu wuxuuna ku sheekayn jiray ana nabiya nebigu sal lay slam kaana inuuha yafcalu mid sameeye daalika arrinkaa oo ah toggaa in la baryo subaxdiina lagu qabaysto markaa kadibna maka la galo saas man ayb baabu dukuuli makkata marka waa sunno wey baabu dukuuli makkata maka gelitaankeedu baabu yaha nahaaran maalinimo la galo ow amase leylan habeennimo la galo ruuxu magaalada maka markuu gelayo habeeniyo maalinba ma geli karaa bise maalin inuu galo wey habeeniyo maalinba in la geli karo baabeeyey wuxuu ihi baatan nabiyu nebigu waa baryey sal lay waslam bidiiuwan toggaa diiuwan la yidhahda ayuu baryey xataa asbaxa ilaa uu ka waabariistay uma kadibna dakhala makkata maka ayuu galay wa kaana bnu cumar wuxuu aha radi allahu canhuma yafcaluhu midkii sidaa sameeyuu ahaa hadalkaa waxaa iska leh imaam bukhaari qala imamku wuxu uhi xadaana musadad ibnu sarhad qala wuxu uhi xadaana yaxya alqaطaan can cubaydillaah ibni cumar ibnu xafs qala wuxu uhi xadaanii naafic mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu uhi baata nabiyu nebigu wuu baryey bidiiuwan xataa asbaxa ilaa uu ka waabariistay uma kadibna dakhala makkata maka ayuu galay wa kaana bnu cumara wuxuu ahaa radi allahu canhuma yafcaluhu midkii sidaa sameeyuu ah saas man riwaayada muslim baa ka cado waxay leedahay nebigu magaalada maka ma geli jirin ilaa uu toggaa diiuwan la yidhaahdo uu baryo oo uu ku waabariisto kadibna uu qabaysto kadibna maalinimuu geli jiray magaalada maka riwaayada muslim baa sariixa uma yadkhulu makkata nahaaran maalinimuu geli jiray xadiiskaasi marka wuxuu ku cad yahay inuu nebigu magaalada maka maalinimo galay tarjamadana wuxuu yidhi imaamku habeen iyo maalin soo ma
ayib macnaheeda habeenkii lama geli karo miya aawey daliilkii ku tusayay in habeennimo la geli karo ayib muur sheegin laakiin habeennimo in la geli karo waxaa muujinaya xadiis ay soo saareen ahlu sunanku oo laga warinaya saxaabi la yidhahdo muxarish alkacbi wuxuu leeyahy nebigu sal alay wasalam cumradiisii uu jicraano ka soo cumraystay oo sanadkee ahayd ya sanadkii maxaad la shiikshiikleediin maad hashaan sanadkii 8aad maka markuu furtay kadib ahayd jicraano markuu nebigu ka soo cumraystay magaalada habeennimuu yimid habeennimuu cumradiisa dhammaystay kadibna nebigu waa ka baxay sal alay wasalam marka habeennimo in la geli karo xadiiskaa sunanka ku soo arooroo saxiixa ayaa ku tusaya macnaha ayib baabu min ayna yadkhulu makkata maka xaggee buu ka soo gelaya markuu maka soo gelayo dhinacyaheeda dhankee buu kaga imaanaya qaala imaamku wuxu uhi xadaثana ibraahim mundir abu isxaaq alxizaami qala wuxu uhi xadaثanii macnun ibnu ciisa alqazaaz qala wuxu uhi xadaثanii malikun ibn anas can naafic mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaana wuxuu aha rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yadkhulu mid gala maka min asaniyati karinta xaggeedu ka soo geli jiray alculyaa ee sarraysa saniyada waxaa la yidhahdaa waa jidka yani sare meel sare ka dhaca ayaa la yidhahda maana yani buur dusheed ama meel taaga dushii ka dhaca maxaa la yidhahdaa karin sooma yani jidkaasaa la yidhahdaa marka waxaa laga wadaa dhanka yani maqaabirta magaalada ama xajuun ama maqaabirta ama dhankaasuu nebigu sal lay slam magaalada ka soo geli jiray markuu soo gelayo saas macana xajkiisii dhankaasuu nebigu ka soo galay sal lay slam iyadaa waxaa la yidhahdaa asaniyat alculyaa yani laba saniya marka leedaha saniya sufla iyo saniya culya karin kore iyo karin hoose karinka korena wuu ka soo geli jiray taagga ah karinka hoose daadagaana nebigu wuu ka bixi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh yadkhulu mid galuu ahaa min asaniyati alculya ayuu ka soo geli jiray wayakhruju wuxuu bixi jiray min asaniyati sufla midda hoosaysana wuu ka bixi jiray nebigu sal lay slam baabu min ayna xaggee buu yakhruju ka baxayaa min makata maka xaggee buu ka baxaya markuu maka kasii baxaya xaggee buu ka baxaya wey macna ayib qala imaamku wuxu uhi xadaثana musadad ibnu musarhad albasriyu qala wuxu uhi xadaثana yaxya waa markii koobaad baan u malinaya oo magacii aabihiina ugu daray musadad unbayna soomaha haddana dan buu leeyay qala wuxu uhi xadaثana yaxya waa qaطaan can cubaydillaah ibni cumar can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku dakhala wuu soo galay min kadaa'in buu ka soo galay kadaadu waa buur magaceed bay leeyihiino yani magaalada xaggeeda kore ku taalla oo yani waxa weye saniyada midaan hadda sheegayna karinka buurta uu ka dhacayo yaa kadaa la yidhahdaa saas maana sira wuxuu ihi dakhala wuu soo galay nebigu makata min kada buu ka soo galay kadaainde min asaniyati buu ka soo galay alculya ee sarraysa allatii midaasoo bilbatxaai ku sugan batxa yani daadageeda kale ayaa wuxuu yahay batxaau maka bacaadkii meeshii yani waxa weyaan muxasabkii iyo bacaadkii iyo mina loo aadi jiray baa daadageeda saas maana wixii o dhan de hadda waa la qoray oo wax la googooyey iyo xataa ibnu xajar markuu kitaabka sharxayo wuxuu leeyahy rag badan oo madaxa isaga dambaysayo saniyadii iyada ahayd sidii loo jafaayey aad baa macnaha waxa weye loo wiiqay buuri haddana waaba kasii dartayba waagaa malaha kor bay ka garaaci jireen hadda hoos baaba laga duleeliyey waaba lahoos maraaba ayb wuxuu yidhi wayakhruju wuu bixi jiray nebigu sal lay slam min asaniyati karinka assufla ee sarreeyana ee hooseeya dheh yuu nebiga ka bixi jiray sal lay slam ayaduna waxay jirtaa xagga buurta la yidhaahdo qucayqacaan buur la qucayqacaan oo xagga hoose ah yuu ku aadan yahay oo saniye halkaa ahaan jirtayna nebigu sal lay slam markuu magaalada kasii baxayo ayuu ka bixi jiray nebigu sal lay slam qaala abu cabdillahi wuxu uhi waa bukhaari kaana wuxuu aha yuqaalu mid la yidhaahdo huwa musadadun musadad kasmihi magaciisao kale wey musadad magaceeda luqada waxaa la yidhahdaa mid la toosiyey soo ma mid la toosiyey magiciisa iyo isagu magaciisa macnuhu ku tusayo iyo isagu waa isku mid bur waa nin la toosiyey saas maana waa nin la toosiyey ayb qaala abu cabdillahi wuxuu yihi samictu waxaan maqlay yaxya bnu muciin baan maqlay oo yaquulu leh samictu waxaan maqlay yaxya bnu saciid waa qataana yaquulu isagoo leh low ana musadadan haddii musadad ataytuhu aan u imaado fii beyti gurigiisa haddaan ugu tago oo faxadastuhu aan u sheekeeyoon axaadiis siiyo lastaxaqa wuu mudan lahaa buui dalika arrinkaas inaan cilmiga gurigiisa ugu geeyo wuu mudan yahay buui sheekhiisii waa ninka saa odhanaya maana yani waa ammaan la ammaanayo
wuxuu yidhi lastaxaqa wuu mudan lahaa daalika arrinka wamaa ubaali umana aaba yeelan buuhi macnaha uma aaba yeelan yacni waxaa laga fahmaya ardadu ayagaa cilmiga sheekha soo doonan jiray sheekhu guryaha uguma geyn jirin saasay ahayd laakiin wuxuu leeyahay saa ha ahaatee haddaan gurigiisa ugu geeyo xataa waa mudan yahay buui umana aaba yeelan bule inaan meeshaa ugu geeyo macnaha sida uu agtiisa macnaha yani loogu kalsooni badan yahay macnaha oo siqa uga yahay kutubii kutubtaydii buu yidhi yaxye kaanad hadday tahay cindii agtayda wamaa ubaali u aabayeeli maayo dheh kutubii kutubtaydu kaanad ahaataya cindii agtayda aw ama cinda musadadin ahaataya yani salafku markay kutooda qoraan oo axaadiista ku qoraan kitaabkaa waxay u ilaalin jireen sidaan inagu dahabkiiyo dolaarka u ilaalino aad bay u xifdin jireen laanna kitaabkiisa wax yar in lagaga daro yuu ka dagaalami jiray gacanta markuu hayn jiray marka wuxuu leeyahay inaan anigu gacanta ku haysto iyo inay musadad ii ag taalno waa isuu kay mid buuri waan ku kalsoonahay wey macana saas weyaan musadad marka wuxuu ka mid yahay yani waxa weeyaan shuyuukhda wuxuu ka mid yahay asxaabu lkutub qaala imaamku wuxu uhi xadaana alxumaydiyu cabdullahi bni zubayr ومحمد بن المثنى قال وحده حدثنا وحنه ورى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مركو إلى مكة دخله وحكسه قال من أعلاها حق هذا السرع وخرجه بح من أسفلها حق هذا صنواك بحي قال إمام كحول حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حول حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حول حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخله وصوغل عام الفتح سنتي كفرتي من كداء حق سروك صوغلي وخرجه بحي من كدن حقه سنواك بحي كدن وحقه كداء ولا مدنة وحق سرع معنا من أعلى مكة أيك بحي وفي صدق من كدن تيبو فصير رواية وحوري من أعلى مكة سلام صحبة ما يصحبة كدائم با من أعلى مكة أهي لكن كدن وحي يدين لي هذا من أسفل مكة سيدا سدرادد وخلط رواد قاركوت كدعي معنا من أسفل مكة إلا بحي أهي معنا طيب قال يوم كحوري حدثنا أحمد بن صالح المصري أما ابن عيسى التستريوي قال حوري حدثنا ابن وهب عبد الله قال حوري أخبرنا عمرو بن حارثوي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخله وقال عام الفتح من كداء بكسو قال أعلى مكة حق هذا السرع قال هشام وحوري وكان عروة وحوها يدخل مدقلا من كلتيها لبضضب وكسو قال الشري من كداء وكدن لبضضب يعني كداء يكداء كداء حق السرع يكدن أو حق هصاء لبضضب تضونو كسو قال الشري وأكثر ما يدخل انتو قلت أقوب بضلنا من كدن بيعي وحق هصاء صوما من كداء ميدون قرأ وخلق أنا إذن كفي عنه من كدواي توصوك سوقلت وكانت وحينا أهيد كدنتو أقربهما تأقود دوان شبضا إلى منزله قريس هذا كان مكوضا أبيه عروة بن الزبير حديث كل نبي كوري وحويان حق السروك سوقلت لصوما هذا نفعل كيسيون خلاف سيئة والشيغي وآبهي لكن لبضا وكسوقلت وحسأوبرنا مدهوسي عذر دار كلها أبو بركة الشيخ عذر دار كيسوها خلافك أو خلافي لأن قري جيسات الأدواء صصر معنا مركب من كدا وينون لمدين معنا طيب قال إمام كحول حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد البصري قال كحول حدثنا حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي عن هشام عن عروة وحول دخل النبي وقال عام الفتح من كداء بكسو قال من أعلى مكة حق سرو كسو قال وكان عروة وحوها أكثر ما يدخل سوقلتان كيسك أقبضني من كدا بوها وكان وحي أهيد كدا أقربهما مدود أقود وانشبضا لوضوض إلى منزله قريقس حديث كهراوي معنا حديث كان مركو في رسالة يعني كي هرا مع فرق يقول حيث سنة كي سفيرية كي هرا عائشة كسرتي لكن كان دم عائشة كمسرت عروة صوص والنبي قوت تيرنا محل إلى هذا مرسل بل إلى هذا طيب قال ابن حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروي عن أبي عروة بن الزبير دخل النبي قال عام الفتح من كداء بكسو قال وحق سرع وكان عروة روحا يدخل مدقل منهما كليهما لوضوضبا وأكثر ما يدخل سوقلتان كي ستأغب بضلنا من كداء بوأها من كدا بيهيد ومده وصا
aqrabihimaa bay ahayd midda ugu dhowaansho badan ilaa manzilihi gurigiisa taa xaggeedu ka soo geli jiray qaala abu cabdillaahi wuxuu yidhi kadaa-un wa kudan mawdicaani waa laba meelood magacood ayib waxaa isweydiin leh xadiidkii isagoo musnadoo caaisho watuu keenaye labadan mursal muxuu uga dambaysiiyey wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo xadiidka mursalna waa lagu wariyaa musnadna waa lagu wariyaa ma ceebaynayso mursalnimadu musnadka ma ceebaynayso ama ma ahee wuxuu doonayaa inuu xoojiyo oo ku yidhaahdo min aclaa makadtadii khaladka ahayd yuu rabaa inuu muujiyo khaladnimadeedoo mursal iyo musnadba xadiisku waa ku yimide kulligood waxay isaga markhaati kacayaan nebigu inuu xagga sare ka soo galay xagga hoosena ka baxay laakiin xagga saruu uu ka baxay inay khalad tahay inuu muujiyuu maraasiisha u keenay hada wabillahi tawfiiq sala allahuma wasallam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وقد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب فضل مكة وبنيانها وباب يهي فضل مكة مكة فضل جاذا وبنيانها وفضل بنيانها اسم هذا fadliga uu leeyahay ayuu baabu yahay macnaheedu waxa weeye magaalada maka iyo xaramka guud ahaanba fadliga uu leeyahay iyo dhismaheedu iyadana fadliga uu leeyahay ayuu baab u yahay wa qowlillaahi ilaahay odhahdiisana baab uu yahay tacaala korahay uu yidhi وإذ جعلنا البيت مثابة للناس إلى آخر الآيات واذكر واحد حسان نبيه إذ وقت جعلنا آن يلي البيت بيتك مثابة ميل لغصة ونقنقضة أيان للناس ذاتك وغدقنا مثابة يعني وميل مركي لغتك بحضن لغصة ونقنقضة يعني واحد شنيان حضنا وصون نقنية way cumraysanayaan haddana way soo noqonayaan masaaba saasa laga wada wa amnan amnina waan ka dhignay meel aamin ah oo ruuxii uu ku aamin gelayo wattakhiduu waqulnaa waxaanu nidhi markaa ittakhiduu waxaad samaysataan ood ka dhigataan min maqaami ibraahiim meeshii uu isku taagay musallan meel aad ku tukataan ka dhigto saana waan ku nidhi maqaamu ibraahim waxaa laga wadaa sida raajixa ah khilaaf baa ku jira laakiin sida u xoog badan waa dhagaxa calaamadiisu ay ku taallo lugtiisii ay ku taallee meesha yaalla yaa maqaamu ibraahim la yidhaahdo taqriibanna eriyadaa ka agdhow meesha dhagaxu yaallo iyo gadaasheeda dhulkaasaa waxaa la yidhahdaa maqaamu ibraahim bacdu ahlilcilmi waxay dhahdeen intaa waa ka guda weyn tahayo ilaa carafa ilaa musdalifa ilaa mina kulligeed maqaamu ibraahim wey maxaa yeele kulli meelahaaso dhan wuu maray nabiyullahi ibraahim calayhi salaam markuu manaasigta yani wax weeyaan uu gudanayey ayib kaa qowlka horaa macnaha yuu leeyahay ibnu xajar isagaa asax ah wacahidnaa waanu dardaarannay ilaa ibraahiima ibraahim waxaan u dardaarannoon abarnay iyo wa ismaaciila an tahiraa ay tahiraa nadiifiya beytiya beytkayga lilطaa'ifiina kuwa dawaafaya u nadiifiya waalcaakifiina kuwa ku negina u dahira waarukaci kuwa rukuucsan assujuudi ee sujuudsanna u dahira maxaa laga dahirayaa yacni nijaasada maadiga ah iyo midda macnawigaaba midda maadiga oo nijaasada wax nijaasaysa wey midda macnawigaana waa shirki iyo awsaanta taana macnaha way ka dahirayaan ayb wadkur waxaad xustaa id wakti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi rabbigay ijcal waxaad yeeshaa haadaa kan baladan ilaahu beled ka dhig aaminan oo aamin ah yacni ruuxii yimaado uu ku nabad ku helayo oo amni ku helayo sidaasay xataa jaahiliyadii laguma dagaalami jiro ninkii xataa yani dakanaha kaa qabay waalidkaa dilay hadduu soo galo mayna taaban jirin ilaa uu ka baxo yani markuu baxay fiirsan jireen laakiin intuu ku dhex jiro lama taaban jirin macna ayib
aamin baa laga dhigayo dhexdeeda in lagu dagaalamo jaahiliyadiina ma jirin sharciguna diintuna waa diiday nabiga sal alay slam saan soo marnayba saaca min annahaar buu ilaahay u ogolaaday kadibna xurmadeedii bay dib u noqotay waa nagi soo marnay warzuq ilaahu irsaaq buu yidhi waa ducadii nebi ibraahim ahlahu beledka ehelkiisa iyo dadkiisana min asamaraati midhayowga xaggooda ilaahu ka irsaaq man cid arsaaq waa laga bedelaya man ilaahu cid irsaaq aamana rumaysay oo minhum iyaga ka mid a billaahi ilaahay rumaysay walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro waa bedel macnaha waxa weye marka hore ehelka xaramka degan oo dhan buu irsaaq yidhi haddana wuu ka bedelo wuxuu yidhi maye kuwa ku rumeeyey ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan baan u jeedaa kuwaa un ilaahu irsaaq buu yidhi macnaha ayb taa dambe marka wuxuu ku reebay haddiiba ay jiraan dad meesha degan oo aan ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysnayn ilaahu ha irsaaqin baa laga fahmaya hadalka ducada nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ayb qaala rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala waman kafara ciddii gaalowdana fa umaticuhu waan u raaxayn qaliilan wax yar uma kadibna addaruhu waxaan u dhibaatogelinayaa ilaa cadaabi annaari naarta cadaabkeedaan u dhibaatogelinaya wa bi'sa waxaana xumaaday almasiiru meel loo laabto cadaabkaa naartaa u xumaaday wey macna ayb yacni tani waxay jawaab u tahay man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhirida uu ku khaas yeelay dadka ahluliimaanka risqiga ilaahay tii baa la saxayaa waxaa la yidhi ma ahee kuwa xataa gaalada ah waan u raaxayn waan siin wey macnaa risqiga adduunyada waxbaan ka siinaya saas macnaa laakiin risqiga la siinaya iyaga ma aha jacayl la jecel yahay iyo raallinimo ilaahay raalli ka yahay waa imtixaanoo waa loo raaxayn si ay macnaha waxa wey waa istidraaj wey marka kadibna aakharo ayaan cadaabi rabbi yihi subxana wa tacala marka risqiga adduunyada gaal iyo mu'min labadaba waa la siin kullan numiddu haaulaa'i wa haaulaa'i min cadaa'i rabbika soo maa saas way macnaha ayb wadkur waxaad xustaa id waqti yarfacu uu kor yeelayo ibraahiimu ibraahim alqawaacida aasaaska min albeyti guriga xaggiisa oo min albeyti guriga beyt sidiisaba haddii la idlaaqo qur-aankiiyo sunnada albeyt haddii la dhaho inta badan wuxuu ku dhacaa kacbadu ku dhacaa saas macna wadkur waxaad xustaa id waqti yarfacu uu kor yeelayo ibraahiimu alqawaacida aasaasiyada min albeyti beytka asaaskiisa markuu kor u qaadayey wa ismaaciilu ismaaciilna markuu kor u qaadayey macna waa markay dhismaha bilaabayeen halkaa waxay yidhahdaan mufasiriintu waxaa laga fahmayaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam in looga horreeyey kacbada dhismaheeda leanna isagu salka muusan ka soo bilaabine asaaskii oo taagan unbuu kor u qaaday aayaddu saasay leedahay asaasku marka inuu sii jiray ayaa laga fahmayaa bay leedahay yaa uga horreeyey baa marka aada loogu mudho ma malaa'ig baa hortii dhistay ma binu aadam ka horreeyaa dhisay ma jin baa dhisay aqwaal yani min aqwaal alculamaa way macnaha ayb wa ismaaciilu ismaaciilna markuu kor yeelayey bal arrinkaa xusoo dadka u sheeg baa le rabbanaa tayaquulaani xaalo ay leeyihiin iyagoo leh markay dhisayaan baa waxay leeyihiin rabbanaa rabbiga now taqabal aqbal minaa xagga naga aqbal yacni camalka naga aqbal aan qabanayno maxaa yeele innaka adigu anta adigu assamiicu midka maqlaa tahay ciddii ku barida alcaliimu addoommada xaalkoodana og baa tahay ogaal u ah rabbanaa rabbiga now iyaga ducadoodii waa la socotay wajacalnaa waxaad naga dhigtaa muslimayni laba hogaansan laka adiga kuu hogaansan ilaa hogaansanayaal naga dhig wey macna yacni qalbiganaga iyo xubnahanaga ilaah kuu hogaansan ka dhig wey wa min duriyatina carruurtannada qaarkeedna ilaah waxaad ka dhigtaa ummatan ummad ka yeel ummaddaasoo muslimatan hogaansan laka adiga kuu hogaansan carruurtaan dhallay qaarkeedna ilaahu hogaansanayaal ka yeel yani waa midii xadiiska nebiga ku so arortay sal lla lay wasalam ana dacwatu abi ibraahim aabbahay ibraahim dacwadiisii iyo baryadiisii baan ahay marka waxa weeyaan ummaddan la tilmaamayo waa ummadda nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas maana leanna nebigu sal lla lay wasalam wuxuu ka farcamay ismaaciil saas maana waa farci ismaaciil wa min duriyatina ummatan muslimatan laka wa arinaa ilaahuna tus bay dheheen manaasikana oo na bar wey manaasikana ay umuura manaasikina wey cibaadaadkanagan arrimahoodana ilaahuna tus oo na bar yacni qaabkan ku caabudi lahayn wey watub ilaahu toobad aqbal calaynaa dushnada naga toobad aqbal innaka adigu anta adigu altawaabu baa tahay midka toobad aqbalka badan alraxiimu ee naxariista badan baa tahay
ayadahani marka kulli waxay ku saabsan yihiin yani maka iyo dhismaheeda maka kale laguma sheegine laakiin waxaa lagu sheegay un kacbada beytka un baa lagu sheegay sooma ijcal hada baladan aaminan beledkaas yani waxa weye taqriiban waa maka laakiin dhismaha xaggiisa markii la yidhahdo dhismihii kacbada un baa lagu sheegay maka dhismaheeda laguma sheegin waxaa la leeyahay dhismaha makaba asaas iyo asal waxaa u ah dhismaha kacbada sumeeyo asaas wey laanna markii kacbada la dhisayey meeshuu magaalo ma ahayn xataa meel la degan yahay ma ahayn sida xadiiskii dhanaa ee haajira ku soo arooray yani waxay ahayd meesha kacbadu meel yaroo taag aho oo daadku dhinacyaha ka maro nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo ismaaciil calayhima wacalaa nabiyina salaatu wasalaam markay kacbada dhiseen oo haajare iyo wiilkeedii meesha uu kaga tegey oo qolo socotoodoo biyodoona ay meesha ugu yimaadeen degmo la dego iyo magaalo ay noqoto markaasaa ugu horreyso saas macana laakiin meeshu meel baadiyaa bay ahayd kacbada dhismaheedu markayaa asal iyo asaas u ahaa maka dhismaheedoo dhan saas macana ayib saasay marka isu waafaqayaan tarjamada iyo aayadda macnaha fadliga makana iyadana waxaa laga qaadanaya oo laga fahmayaa ilaahay subxaana wa tacaala yacni nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam baa ilaahay u baryey ilaahay buu u baryey inuu macnaha waxa weye beled aamina ka dhigo oo dadkiisa irsaaqo oo ila akhiri ayb qaala imaamku wuxu uhi xadaana cabdullaahi bnu muxamed almusnadi albukhaari qala wuxu uhi xadaana abu caasim annabiil addaxaak bn makhlad qala wuxu uhi akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik bn cabdilcaziiz qala wuxu uhi akhbaranii camr bnu dinaar qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay jaabir bni cabdillaah radi allahu canhuma qaala isagoo yidhi lamaa goortii buniyad la dhisay alkacbatu kacbadii markii la dhisay ayaa dahaba waxaa tegey annabiyu markii la dhisay waxaa laga wadaa markii la dhisayey quraysh markay dhisaysay baa laga wadaa macnaha lamaa buniyat markii la dhisay markii la dhisayey weeye alkacbatu kacbada markii la dhisayey ayaa dahaba waxaa tegey annabiyu sal ly slam iyo cabaasun cabaas oo nebiga adeerkii ah yanqulaani xaalo ay soo rarayaan alxijaarata dhagaxyaanta yani dhagaxyaantii kacbada lagu dhisayey baa lasoo gurayaa cabaas iyo nebiga sal lay wasalam baa marka israacay iyagoo dhagaxyaantii wax ka soo guray faqaala alcabaasu cabaas baa wuxuu ku yidhi linabiyi nebiga wuxuu ku yidhi sal lay wasalam marka nebigu waa wiil yar ijcal yeel izaaraka hoosguntigaaga calaa raqabatika qoorta saara buu yidhi oo maxaa qoorta u saara dhagaxa isaga dhig buu leey macana ilaan dhagaxa tunkaa lagu qaadaya maro kalena ma jirto waa un qeydkaa hoos laga guntay marka qeydka intaad soo furto dhagaxa isaga dhigoo tunka saar marka wuu qaawanaan marka saas way macana cawradii baa iska qaawan ayb saa yeel buu ku yidhi waa taladii cabaas wey ijcal izaaraka hoosguntigaaga waxaad yeeshaa calaa raqabatika wuu damcay marka sidii buu damcay oo intuu soo furo inuu meeshii saaro fakhara markaasuu dhacay ila alardi dhulku u dhacay maqshiyan ba riwaayo kale ah waaba suuxay macnaa soo suuxsan buu dhulku dhacay nebigu sal alay wasalam ayb wadamaxad way taagantay caynaahu labadiisa indhoodna ila asamaa'i xagga saray u taagmay yani sidii wax naf baxay oo kaleetuba u muuqdayba taqriiban marka waxaa loo diidanaa isqaawintaa loo diidanaa nimankan carabta macnaa waxa weye jaahiliyada isqaaqaawintaasi iyaga macno weyn agtooda kama lahayn laakiin nebiga sal alay wasalam qabla albicsa xataa intaan ilaahay nebinimo uusan u doonanin oon nebinimo loo sheegin qabla alarbaciin xataa waa la ilaalin jiray nebiga sal lay slam saas way macnaa waxyaalaha dhaqanka reerahooda reerka iyo waxyaalaha xunxunka waa laga dhowri jiray nebiga sal lay slam saas way macnaa faqaala wuxuu yidhi marka nebigu markii uu macnaha dhacay oo dhulka ku dhacay indhuhu taagmeen faqaala wuxuu yidhi arinii itus yani iisoo dhiib weye izaarii hoos guntigayga fashaddahu markaasuu ku xidhay oo ku adkeeyey calayhi dushiisa wuu isku xidhay marka yani si adag buu marka u giijistay oo wuu xidhay wuu kacay saas way macnaha ayib waxay riwaayo kale leedahay famaa ru'ya bacda dalika curyaanan markaa kadib wejgii nebigoo qaawan lama arag salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macnaha yani addabahu rabbuhu fa axsana ta'diibahu way rabbigii baa edbiyey subxaanahu wa tacala saas way macnaha ayib maxalushaahidku marka waxa weye yani lamaa buniyat ilkacbatu waa kacbada dhismaheedii wey kacbada dhismaheedii baa makana dhismaheedii ah saas marka dhismaheedan waa dhismihii quraysh ay dhistay wey waa dhismihii ay quraysh dhistay leanna nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam dhismihii ay ku sameeyeen kadib xilligii
yani nabiga waqtigiisa sallallahu alayhi wasallam intii yani taqriiban 25 jir meelaha soo uu ahaa bay dhahan xilliyadaas bay haddana qurayshi dib u dhistay dhismaha quraysheed wey marka dhismaha quraysheed ayaa laga hadlayaa macnaha marka yani dhismaha kacbada ayuu xadiisku saabsan yahay dhismaha kacbaduna waa dhismihii maka saas macnaha marka xadiisku calaaqa u leeyahay tarjumada